Man TV oo mar walba idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee barnaamijyo ku saabsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Caawa waxaan barnaamijkan ka hadlayno waa oromada oo weerar joogto ah ku haysa shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaa caawa barnaamijkan marti inoogu ah haddaan ku bilaabo gacanta midigta gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad Mahdi Ibrahim. waxaa kaloo ku xigta deeqa عيديد أو يدنا قدوميها كحجين كواد أوروكا حوينكا DDSI UK يو جمال شغباهن قدوميها جود تاريخ DDSI UK لما أنتي مرتشرف سودا هذا ودونا هاي سيدا بسعوتين موضة وعنو إليسو قدبينينا مرحلة قدام بيه دولة دقان كسوانة إثيوبيا oromo deegaanka oromada iyo deegaanka Soomaalida aad la socotiin waxay leeyihiin xad dheer oo 1400 kilomitir qoomiyadda waxa ka marmar ka dhaca isku dhacyo fara badan laakiin waxaad u moodaa si sanadkii 2016 ilaa iyo hadda inay isku dhacyada sii bateen taasi oo aan la garanaynin waxa ka dambeeya oromadu oo Malaysia oo hubaysan ayaa intay xadka soo gudbaan magaalooyin badan weeraray 2016 waxay weerareen Mooyaale oo halka ay ku dileen 35 ruux 2017 bishii September waxay weerareen Hawadaay Balbaleyti Baabiley Mooyaale gobolka Diidaan dadka marka la soo daro dhammaan waa 1000 bay gaarayaan dadka meesha ku dhintay mar walbana dhibaatooyinka ay oromadu ku hayso Soomaalida lagama hadla xagga miiriyada su'aasha isweydiinta waxay tahay maxaa looga aaminsan yahay Soomaalida dhiigeeda oo looga hadlay ama miiriya haato ama dawladda dhexe haato ama dawladda Soomaalida haato waxaan siinayaa marka channelka koowaad gudoomiye ku-xigeenka koowaad Mahdi inuu warbixin yar naga siiyo wararkii ugu dambeeyay weeraradii ay oromadu ku qaaday magaalada Mooyaale welcome Mahdi injineer Axmed waad mahadsantahay iyo aqyaarta ka soo qayb gashay iyo Tilmaan TV nigoo Mahdi Ibrahim waa ku soo dhawahay ugu dambeynta hadda kullay dagaalka ay Oromo ku hayso Soomaalida wax hadda bilowday maahan wixii hadda ka hor waxay ahayd area-da Mooyaale waxay isku dagaali jireen waxyaabaha meelaha qaarkood ee xooluhu ay biyaha ka cabaan iyo tulooyin yaryar iyo dhul daaqsimeed iyo wax noocaas ah laakiin 3 sano iyo la soo dhaafay hadda wixii way isbedeleen marka waxaa jirta wax la yiraahdo political tension oo ah in dalbalaarsi iyo maxaan ku yiraahdaa xukun doon ay oromadu ay weerar ku qaadaan weerarkoodu uu base ku yahay political marka haddii aan ku noqdo kaba soo qaad waxa hadda currently socda saa sheegtay December 2016 ilaa hadda dad baa lagu dilayaa meeshaas dhowr iyo 20 qof ayay dileen markii ugu horeysa December 2016 bay ahayd kadibna September meelaha ama October waxay dileen 32 qof Mooyaale Mooyaale ayaan ka hadlayaa kullay de saad sheegtay ma ahan Mooyaale kaliya dagaaladu waxay ka dhacayaan meelo fara badan tan ugu xumeeyay sida Hawadaay oo kale maxaan ku yiraahdaa Balbaleyti oo dad iyagoo nool de godku lagu duugay aan aragnay Baabiley hadda ay ka socoto dadka guryahooda la gubayo iyo area kale oo de fara badan xuduudka dawladheer yahay xuduudka Soomaalida iyo Oromada u dhaxeeya waa Mooyaale laga bilaabo ilaa Djibouti marka haddii aan de ku soo noqono basically waxaana ay ka socdaan waa dalbalaarsi weeyaan Oromadu wax qorsheysan bay wataan oo ah Soomaalida inay barakiciyaan guryahooda gubaan iyo beerahooda xoolahoodana ay qaadaan si Soomaalidu uga cararto halkan degmooyin fara badanna ay already calaamadeysteen oo leeyihiin degmooyinkaasi degmooyinka ammaanka maxay wax uga qaban waayeen Oromadan ma artay dalbalaas wata labada deegaanna soo xuduud ma lahan calaamadeysan
oo ninka oromada inuu soo gudbi karino deegaankiisa inuu ku ekaado ay tahay soo ma way tahay laakiin waxa la yiraahdo border demarcation ma jiraan oo referendum kii dawladda ayaa ku seexatay dawladda Oromiya ma rabto referendum in la sameeyo oo demarcation la sameeyo la yiraahdo la kala calaamadeeyo borderkii iyo maartay sohodintii dadka u dhaxaysay ma rabaan inay sameeyaan mar walba ayaga daboola ayagana heerkan soo gaarsiiyay ilaa hadda saad ogsoon tahay wax ka hadla oo federaal ah oo dadka maalin walba la dilaayo oo guryahooda la gubaayo ka hadlaya ma jiraan dawladdu way ignore gareysay keeska wayna og yihiin saad ogsoon tahay prime ministerka Abiy Ahmed markuu qabsaday xukunka wuxuu ka bilaabay horta 5 minutes before inauguration ceremony meesha lagu dhaarinayay oo Haile Mariam xukunka kala wareegayay uusan gaarin journalist ayaa u yimid صح 5 minute speech buu siiyay oo ku saabsan maaragtay conflict resolution waana nin expert ku ah subject-kaas oo PhD ku qaatay conflict resolution aqoon darro kama hayso صح waa nin u bisil oo de wax ka qaban kara I believe hadii ay maaragtay honest ka tahay visiting ugu horeeyana wuxuu ka bilaabay regionka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayuu ka bilaabay Oromo markaa ku xijiyay markaa ka bacdi buu maartay aaday wadamada kale marka halka waxa ka jiray ballamadii lama oofinin waxaase ka sii daran the media blackout totally media kama hadlo deegaanka ay ku hayso Oromadu ha totally media kama hadlo marka hadii aan de wada dhameeyo hadalka de hadhow dadku in chance kale soo siiyo way wasraacinayaan oo ku soo noqonayso oo yar baan rabaa inaan about media ka hadlo go ahead waxaan u jeednaa pressure inuu jiro oo de xataa dawladda mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia aysan ka hadli karin halka waxa ku tusaya there is no media freedom iyo freedom of speech inuusan jirin oo dadka loo caga jugleynayo a kind of bullying inuu jiro meesha dadku ay caburan yihiin ayna hadli karin oo dawladda federaalka aysan u ogoleyn dadku inay ka hadlaan mise aan ku dhaleeli doono madaxdeena maxay oga hadli laayihiin mediaha maxay BBC da oga hadli laayihiin Al Jazeera maxay oga hadli laayihiin Ethiopian TV maxay oga hadli laayihiin waa waxyaabo de isweydiin leh culayska meesha ka jira muxuu yahay su'aalahaas waa u noqon doonaa waad ku mahadsan tahay deeqa ku soo dhawow wixii information aad ka hayso dhibaatada Oromada ay ku hayso dawladda deegaanka Soomaalida shacabkeeda welcome walaashay deeqa السلام عليكم horta wad mahadsantiin tilmaan TV aad baan idinka mahad celinayaa martiqaadka aad ugu martiqaadeen caawa engineer Ahmed eega wallahi dhibaatadaas soo noqonaysay walaalkay baa ka hadlay intii ugu badnayd maxarada markaan hadaan ka hadlo qaybtan xagga Shiniile Maays iyo Bardooda saasay maartay mar walba ay dad ugu laayaan oo maartay dadka u soo weeraraan haddana way ka sii dartay 3 sano waa runtiisa uu sheegay way ka sii dartay awal daaqsinka iyo waxaas la isugu iman jiray hadda laakiin waa dagaal siyaasadaysan meesha ka bilowdayna way garanayna ya waa dagaal siyaasadeed dhul balaarsi ay wadaan ha dagaal siyaasadaysan dhul balaarsi weeyaan laakiin waxaan oran lahaa anigu maartay way qurux badan tahay maartay dawladda federaalku inay ka hadasho oo maartay dadkan la leynayo maalin kasta maartay in dhiigooda laga dhigo wax aan macna lahayn ma aha waa in laga hadlo ay ka hadasho dawladda federaalku waxa sababaya la baadho hoos loo eego de waxa sababta keenaysa dadkan la iska leynayo maalin walba waxa keenaya weerarkan keenaya waa in de haday maartay cadaaladda loo keeno dadka ka dambeeya iyo sababaha waxan keenaya la eego waayo labada shicib Soomaaliya Oromo dad walaala deegaan bay wadaagaan shicibkii ma aha dad kala ka dambeeya waxan oo shicibka maartay iska hor keenaya marka
insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladda federaalku ay maaragtay ka jawaabto oo ay maaragtay arrinkaas la xalliyo aanu sii socon dee arrin aad u fool xun weeyaan waa arrintan haddaan la xallinin dhibakan baa sii badanaya ra-iisul wasaarahuna deegaankii socdaalkiisii ugu horreeyey wuxuu ku bilaabay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya markaa wafdigaas oo uu la socday laame magarse uu la socday madaxweynaheena cabdi maxamed cumar iyo isaga gacmaha la isqabsaday oo la yidhi waa la xalinayaa problemka dhibaatada oromada iyo soomaalida conferencega ay qabteen runtii khudbadihiisii ra-iisul wasaaraha khudbadihiisii ujeedinaya khudbado aad u wanaagsan bay ahaayeen isaga oo muujinayay inaan maaragtay qoomiyadna la dhibi doonin cidhiidhi la gelin doonin xataa hadday 10 qof maaragtay ay jiraan qoomiyado 10 qof nacam yaraan macnaha 10 qof ka kooban hadday xataa jiraan in xaqooda iyo xuquuqdooda loo ogolaan doono dee markaa xuquuqdii iyo xaqii dadka soomaalida ee la leynaya hadda la gumaadayo iyo kuwii hore loogu laayay balbalayti aawi xaqoodii iyo maaragtay waxaan jecelahay in maaragtay dee laga hadlo oo xaqoodii iyo xuquuqdoodii meel la saaro dee kuwii hore loo dilay iyo kuwa hadda lagu darayba ee la wada ay hadda socotay la hadda gudoomiye kusoo dhawow mahadsanid injineer axmed mahadsanid martisharafta deeqa halgan iyo gudoomiye mahdi waad mahadsantihiin tilmaan tv mahadsanid warbixinta guud kolley idinkaa taabtay badankeedana dhacdooyinkii soo socday oo dhan midiyahay ku jirtaa iyadii oo kooban oo dee kolley aan si fiican oo tafatiran xataa mararka qaarkood aan loo soo dhigin waan ka xumahay hadda waxaasoo dhacdooyina ama dil oo dhacaya ma jiro tirakoob guud oo caddaynaya maanta ama meel lagu leeyahay intaasoo qof baa soomaali maanta laga dilay hase aad waxaa dhici karaysa qolooyinkan kale dagaalka siyaasadaysan wada inay maaragtay iyagu dadkaba xataa tiro koobanayaanoo waxay dileen xataa iyagu ay ku darsanayaan maxaa sababay iyo su-aashii iyo maxaa looga hadli waaya haddii aan hadda aan u soo noqdo dhowr arrimood baa horta isdul saaran oromadu sidiiba ay uga qayb noqotay ururka EPRDF bilowgii sagaashameeyadii waxay la soo baxday muruq iyo siyaasad iyo caqli ay dheer tahay soomaalida taariikh ahaan dadka soomaalida iyo oromada xuduud dheer bay leeyihiin waana labada qowmiyadood ee ugu xuduuda dheer Ethiopia dhexdeeda ama geeska Afrika hadii la yiraahdo qowmiyad xuduud leh marka la yiraahdo marka labada qowmiyadood ee xuduuda inta leeg leh qarniyo fara badan soo wada noolaa isla markaana dhinaca dhaqanka iyo diinta iyo isdhalkaba maaragtay ay aad isula falgaleen generation macnaha jiilal fara badan waxay ku kala bixi jireen meelaha sida hadda aad soo taabateen marka ama daaqsin la isku qabto ama isku dhac u yimaado xeerar u yaalay oo iyo is-ixtiraam labada dhinac ah oo ayaa markaas lagu kala bixi jiray at same time dadku wuu sinaa markaas oo hadday qori iyo quwadba hadday noqoto markaa wuu sinaa inaan waxba la iska qaadi karin baa meesha yimid marka waxa meesha ku soo biiray wax taariikhda aan awal jiri jirin oo ah qolo inay quwad siyaasadeed ayna lahayn qolona ay quwad siyaasadeed yeelato oo macnaha ururka EPRDF ka mid ahaanshaha oromadu markaas waxay ku soo kordhisay in ay score settling ama waxyaabo iyada ka baaqday inay dib u eegto oo meelihii muranku daaqsinta ka jiro oo kala degmooyin ha noqdo ama tuulooyin ha noqdee inay waqtiyadii sagaashameeyadii referendumadii macnaha la samayn jiro oo kale inay si ay dowladdu markaas iyagoo adeegsanaya machinery-gii dowladda ama awoodiisa dowladda iyagoo adeegsanaya in ay si process cad oo muuqata markaa dadkii qaarkood ama degmooyinkii inay kula wareegaan dadkiina mararka qaarkood ayba kuba qanciyeenba inay xaggani uga fiican tahay inay xagga oromada soo raacaan
dadkana inta badan xuduuddu waxa weeyaan waa laba af leh dhaqankuna waa isku mid u is-shabahaa noloshu way iswada shabahdaa oo waa dad xoololey ama wada beeraley oo isku siin xoolaha u dhaqda waa dad isdhalay waa laba af leh labada dhinacba dadku laakiin waa Soomaali intan xuduudda hadda ay ku murmayaan ee dhulbalaasha ku wadaan laakiin hadda waxa ku soo koray in dadkii Soomaalida ahaa meesha lagaba saaro ama Oromaha ku hadlayaan ama haba isdhalaan oo maaragtay abti iyo maxay soo noqdaan in abti ay soo noqdaan macnaha sinjigii Soomaaliga riixid baa meesha tiin problemkaasi marka waa nature nolosha macnaha sunna nolosha kamida bani aadamku inuu isduusiyo oo isriixo meeshii marka sidaan soo sheegay waxa ku soo kordhay muruqa siyaasadeed ee Oromada u soo kordhay waxa u soo kordhay muruqaas ay wax ku marsan karayaan xaq sharci haday noqoto iyo hadii ay dhinac kalaba noqotoba maxaa marka maanta sidan fawaaxishka inay maaragtay bangad loo qaato oo la laayo oo shacabkii Soomaalida Ethiopia markaas kolba meel la wado wax maxaa sababay weey sababtaas anigu waxaan oran karaa kuma wada eedeyn karno Oromadu waxa weeyaan waa dadka aynu qarniyaasha aynu dariska ahayn waynu wada xaali jirnay waynu wada dagaalami jirnay maxaa meesha xageennii marka dhibaatadu ay tahay quwadii iyagu u soo kordhay inaga inoomayna soo kordhin laakiin inaga xaggeena waxba isdhinka xaggeena wax isdhimay ayaa xaaladda sii xumaysay marka maxaa kamid ah waxaan oran karaa hankii qofka siyaasiga Soomaaliga ayaa horta hoos u dhacay waxa qiimo dhacay maxaan ku dhahay midnimadii Soomaalinimada ama isu heelintii Soomaalinimada ayaa iyaduna hoos u dhacday oo meesha ka baxday oo dhiigga qofka Soomaaliga ayaa wuxuu noqday waxaan macno lahayn oo labada beelood ee dariska ee Soomaalidu awal ama way iskaalmeyn jireen ama way isu caqli celin jireen ama way isdugaalin jireen wuxuunba isku caawin jireen taasna waxay noqotay inay iscaawiyaan ka sokowe inay xataa iyagu isu luqabtaan ama iyaguba ay dhinaca kala xataa qof Soomaali oo dibigii madoobay dibigii casaay dibigii cadaabay Soomaalidu noqdeen marka hadba mid baa lagu maxaan ku dhahaa marna dibi cad baa lagu si sheekadu ahayd kolba maxaan ku dhahaa hal dibi baa lagu maxaan ku dhahaa lagu degayaa qaar baa waxay noqdeen gudoomiye hasha labada galjaal way taasina waa lagu cabiri karaa waa runta oo waxa weeyaan hanka siyaasiga qofka Soomaaliga markuu hoos u dhaco dadkiina waxa ku dhacaya jahwareer baa ku dhacaya direction la'aan baa ku dhacaya qabkii hatta kaba soo qaado kale ninka geeljiraha ee Soomaaligu qab buu lahaa geesinimo lahaa wuxuu lahaa waxyaabo aan topic haddaan u soo noqdo marka waxyaabaha hadda anigu aynu taaban karayno ayaa ah macnaha maadaama uuna jirin han siyaasi oo quman oo siyaasiyiintii Soomaalida heer kastaba ha noqotay heer degaan ha noqoto heer maxaan ku dhahay federaal ha noqoto ku shacaba ha noqoto qofkii Soomaaliga ee siyaasadda fahansanaaba hankiisu horta hoos u jira marka waxa lagu problemkana waxa ay tahay because meesha hadda midhiyihii qaabka uga hadlayana aad bay u khariban tahay dhinaca marka Oromada laga hadlayo noocyo fara badan bay tusaysaa waxa aynu marka inagu aynu eegaynaa inaga xaggeena hoos u dhaca u yimid oo ay ka mid tahay xataa oday dhaqmeedkii baan xataa soo gelinayaa markaas marka aan leeyahay hankii siyaasiga qofka Soomaaliga qof xafiis fadhiyo aanu markaas uma jeedo laakiin guud ahaan bay inagu hoos tahay inuu hooseynaa marka ilaa taa kor loo qaado dilkan iyo guda galno briefing waan samaynay hadda isku dhacyada Soomaalida waxaan ku bilaabayaa su'aasha Mahdi isku dhacyada Soomaalida iyo Oromada maxaa ka dambeeya kula tahay waan mahadsan tahay injineer Axmed outside baa ka dambeeya ma labadaba way leedahay isleeyahay anigu outside iyo gudahaba boqolkiiba 75 waa gudaha
say aniga ila tahay kaba soo qaad oromo waxay u dagaalamaysay mudaharaadyo u sameeynaysay 3 sano la soo dhaafay ee warshadaha u gubaysay waxay yiraahdeen waana la caburiyay oo waana la guumeystaa iyadoon ogsoonahay inay xisbi dhan leeyihiin oo state dhan leeyihiin sida maartay shacabka kale ee Ethiopia oo dhan oo party la yiraahdo OPDO ayay leeyihiin speaker of parliament waa ayaga intaas wasiir bay leeyihiin haddana waxay leeyihiin waana la caburiyay dadka dhahaya waana la caburiyay wixii rabshad iyo qalalaasa ka dhacay meesha aad ogeyd waday waxa ka dambeeyay niman ONLF la yiraahdo duurka ku jiro oo dawladda Ethiopia mucaarad ku ah صح waxay asaaseen wax la yiraahdo qeero oo ah dhalinyaro af Oromo ayay bilaabeen dhalinyaradu waxa ay wadeenba iyo dhagax ay tuurayeen iyo warshadihii ay gubayeen waxa la Ethiopia dhan baarlamaankiiba iyo dawladdiiba tashatay waxa la yiri xal aan raadino halka muxuu ku imaanayaa in qowmiyadahan kacay maartay rabshada wadaal la qaboojiyo xukun baa la siiyay prime minister bay noqdeen halkii laga rabay inay dejiyaan wadankaas maadaama ay shalay lahaayeen wana la caburiyo inay iyaguna bilaabaan inay dad gumaadaan oo dad sii caburiyaan wax iskeenaya maaha Ethiopia 20 sano ay qowmiyadahan oo dhan wada noolaayeen demokrasi iyo horumar iyo maxaan ku yiraahdaa waxaan horey loo aqoonin baa la helay magarad ayaguna kama ay qabtanayn Ethiopia maanta hadii ay prime minister noqdeen waxa la rabay inay dejiyaan wadanka okay dad doonaya siday aniga ila tahay in xukunka Oromadu uu fail garoobo oo ay failure noqdaan oo legit government aysan noqonin raba ayaa waxaan ka dambeeya horta صح ciday doontaba ahaato haddii aan ku soo noqdo Oromo iyo Soomaaliya dhaxdoodana xuduud dheer baanu leenahay dhaqan baan wada lahayn waa la wada deganaa over 300 maaragtay years baa meesha la wada deganaa waxa maanta keenay in baangada la isu qaato la isu jarjaro oo godad la isku rido waa wax u baahan investigation weyn lamana sameyn ilaa hadda guddiga waxay raadnaa dawladda ra'iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in la bixin doono committee soo baara dhibaatada ka dhacday labada degaan ilaa iyo haddana wax committee oo la bixiyay ma jiro oo muxuu ahaa dadkii Soomaalida soo qaxay ama xagga yimid iyo Oromadii xagga qaxday wax maartay investigation oo la baaray oo root cause-kii problem-kan la baaray ma jiro marka dawladda federaalka maxay sheegeen tiraysaa dhibaatadan maartay internalka ee soo noqonaysa mise dawladda federaalka Soomaaliya qiimo mahadiyahan anigu ku qiyaasi karaa ra'iisul wasaaraha qorshaha uu watay asagu waa chairman of EPRDF صح niman OLF la yiraahdo duulka ku jiro oo mucaaradaha sida Gimbot 7 iyo ONLF iyo OLF waxa dhan baa wada laga soo qaaday runta nimanka OLF ta mucaaradka ahi marrabaan xukunka maartay sida uu maartay u socdo dadku inay sinaadaan dadku inay wada noolaadaan Soomaalida nolosheeda ayaaba gubaysaba dadkii caburnaa ee 20 sano duurka ku jiray bana la ku soo daayay kuwii baa raba Soomaalida inay hilibkooda cunaan Oromaduna waxay ku qasban tahay prime ministerku maadaama uu EPRDF ahaa asaga cid dhageysana ma jirto waxay leeyihiin qaarkood anoo af Oromo waan aqaana waa shilinka labadiisii dhinac bay ku leeyihiin ma ra'iisul wasaare cusub qaar baa ku leh waa shilinka labadiisa dhinac weeyaan EPRDF shalay aan ku mucaaradaynay shilinka dhinaciisa kalena loo rogo weeyaan Soomaalida garan marka bahashu ma soo dhawaa siday dadku u maleynayaan maaha prime minister kana
ma u malaynayo dee kolley hidden agenda inuu meesha ku jiro waa laga yaabaa waxyaabo qarsoon annagu ogeyn laakiin inaysan dhegaysanaynin dad xarig laga soo daayay baa soomaalida baangad la soo fuulay oo rabaa xukunkan inay fashiliyaan waa mahadsan tahay gudoomiye deeqa walaasha kusoo dhawow maxaa u aragtaa inuu ka dambeeya waxay su'aalayaan isku dhaca soomaalida iyo oromada maxaa ka dambeeya kula tahay horta mahdi baaba dee hadalkiiba isagaa soo dhameeyey soo koobay waxa weeyaan waa dad dana gaara leh dad dana gaara leh ayaa maaragtay ka dambeeya sidaa uu sheegay oo gadoodsan oo raba maaragtay inay aad mooddo inay dee soomaalida inay dabar goynayaan baad mooddo aad mooddo inay dad ciil iyo cadho innaga inoo qabaabaad mooddo dadkan marka adigu dee waa dadkaa gadoodsane wax ku duuganba wixii ku duugane hoosna kolley waa la ogaan doonaa waxaanan maaragtay aynu maaragtay ka rajaynaynaa inay dowladda federaalku hoos u dhaadhacdo ay waxan dee ay maaragtay lasoo caddeeyo ujeeddada waxa ka dambaysa iyo dadka iyaga inta dhimatay maaragtay dee xuquuqdoodii iyo in la hor keeno cadaaladda dadka waxan de wada de muxuu ahaa guryihii ay deganaayeen intaasoo 100 sano iyo xoolahoodii la dhacay in loo soo celiyo la siiyo magdhow deegaankoodin dib loogu celiyo nabadgooda in la sugo shaqada federaalku shaqadiisu gudan waayey haddii ay xallin waayaan dhibaatooyinka qowmiyadaha dhexdooda waxaan iya kugu darayaa intaas deeqa raalli hoona kaa dhex galay wiigii horeeto afhayeenka baarlamaanka haweeneyda loo magacaabay ayaa waxay tagtay qowmiyadaha koonfureed oo isku dhacay oo dad badan iska dilay waxay ballan qaaday in la siin doono compensation dadkii ku dhintay wixii soo qaxayna la celin doono deegaankeenana ilaa hadda wax wafdiya oo federaal ka socda oo arrintaas ka hadlay maana arag marka xagee marka khaladku ka socdaa ma federaalka ma deegaankeena ma oromada waa isgaanon dadku waa weerarsan yahay wallahi anigu waxaan inuu federaalku inuu arrinkan federaalka laftirkiisa inuu indhaha ka qarsanayo ayay aniga ila tahay haddaanay ahayn halkaa ay u dirayaan dadka kaleba ee maaragtay madaxdooda u dirayaan lasoo eegayo maxaa u diiday inay dadka iyaga soomaalida halka lagu leyn soo eegaan soo xaqiijiyaan wixii la dilay iyo wixii la barakiciyey dee waxa ka hor taagan waa question mark de marka waxaan leenahay waa in dee maaragtay lasoo xaqiijiyo dadka maaragtay waxa lagu dilayo ee maaragtay dee gardarrada ah ee lagu xasuuqayo guryahooda lagu gubayo midda labaad dee magdhowga kuwa kaleba maaragtay la siiyaba iyaguna xaq u leeyihiin iyo maaragtay maaragtay xaqoodii iyo xuquuqdooda sida kuwa kale Etoobiyaanka u leeyihiin ba Soomaaliduna u leedahay Etoobiya marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay intayna maaragtay tuuley noqonin waayo dadka wixii qixi kara waa qaxeen wixii dhiman kara waa dhinteen ma rabno in dad kale oo Soomaali ah oo deegaankeena ah oromo hubato Malaysia inta kusoo duusho ay disho oo dalkooda laga rabo ma rabno dowladda federaalku waa inay ka kacdo chiefka dowladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay dowladaha dariska iyo dekad iyo ku maqulsan tahay laakiin problemka ka soo socda deegaanada ama qowmiyadaha dhexdooda ayaa dhibaato weyn taas inay dowladdu fiiriso gudoomiye kusoo dhaw maxaa ka dambeeya kula tahay isku dhaca Soomaalida iyo oromada maxaase wax looga qaban waayay horta aan ka yara dhex gale waxaan in yar wax yar iga raali gudoomiye waxaan lahaa kuwan waxaan Soomaalidan baan leeyahay kale ee iyagu laftirkooda dadkan maaragtay dee dadkooda cadowga ku ah gumaaday maaragtay daba socdaan waxaan dhihi lahaa dadkiina iyo deegaankiina maaragtay haddii aad wax tabanaysaan dee deegaankiina toos u tago oo dadkiina maaragtay la xaajooda intaad dad maaragtay dadkiina laynayo oo cadow ku gumaadaya aad garabka saaraysaan waxaan odhan lahaa waxaas ka waantoobaan odhan lahaa waa xoolanimo weeyaan aan ka baxay waa arfaas fiican hadday qaadanayaan talo fiican weeyaan ilaahay ha garabsiiyo middaas gudoomiye kusoo dhawow horta haddii la yidhaaho maxaa ka dambeeya waxa weeyaan xuduud dheer oon sidaan hadda hadalkayga aan ku bilaabay labada qowmiyadood ugu xuduudda dheer deris ah geeska Afrika qowmiyadaha degan ayaynu horta aynu nahay taariikh dheer oo qarniyaalana waynu soo lahayn waynu soo wada deganeen isku dhacyuhu wuu jiray oo mar walba way imaanaysaa kalaashku imaanaya
laakiin haddana waa la xallin jiray waa macnaha arrin oo macaamultankeeda iyo wax ka qabashadeeda iyo xalinteedu mar walba ay isdaba socday buu ahaa oo la maarayn jiray iyadii oo waayadii ka horreysay dowladnimo iyo isgaadhsiin fara badan iyo waxyaabahaas iyo aqoon badan iyo ayna jirin ayaa la maarayn jiray isku dhaca labadan qowmiyadood la maarayn jiray laakiin hadda waa tu casriyeysan waxaan se anigu aan haddii su-aasha aan toos aan uga jawaabi lahaa anigu waxaan odhan lahaa lama odhan karo koox baa horta si toosa uga dambaysa laakiin gilgilashadii siyaasadeed ee ka dhacday Ethiopia ayaa macnaha duulduulkeediibaa wuxuu ina soo gaadhay inay qoladii oromada ahayd inoo aragtay in qolo ay gacanta qabsan karto oo la istaagi karto oo la duuban karta inaynaan ahayn markii ay banaanbaxayeen lamaynaan nidaamkii markaa dowladdii Haile Mariam Desalegn ay ku banaanbaxayeen ay qoladan qeyrada hoosta ka samaysanayeen iyagu hoosta iska abaabuleen inagu maynaan garab siinin marka si toosa loo hadlo opposite ahaan waynu ka hor nimid oo qowmiyadaha kowdii diiday oo yidhi waxood waa sharci darro ayaynu ka mid ahayn waa fikirkayga aniga halkaas waxaana laga yaabaa inay si kale ay qof kale ula muuqato laakiin aniga qaabku wax hadda haddaan dib u eego dhacdooyinka qaabkaasi iigu muuqdeen may maqashaan marka maadaama ay inoo arkeen inaynaan la mac ahayn oo aynu ka soo horjeedno waxay sameeyeen ridi ficli inay isku dayaan inayna qasbaan inaynu iyaga raacno aynu daba orodno in lays adkeeyo oon la daba ordina mowqif fiican buu ahaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay cagajuglayntaas iyo fursad yaroo arkeen inay dhul ku helaan inay ama ay dad ku barakacsadaan inay meeshii arkeen isla markaana ay cidina u raacaynin oo macnaha waxa weeyaan waxyaabaha qaarkood markuu qofka uu samaynayo waxa weeye wax su-aashu isweydiinaya waxaan ma samayn karaa haddaan sameeyana ma ka badbaa ma kana garaway widid macnaha ma ka badbaadi karaya inaan cidina waxba ii raacanin wax ma laygu soo raacanaya therefore oromadii labadaasa u muuqatay inay soomaalidii riixi karaan isla markaana inaan cidina waxba u raacan karayn macnaha ama heer caalami ha noqoto ama heer federaal ha noqoto ama heer degaan ha noqoto ama heer degmo ha noqoto ama heer oday dhaqmeed ama qabiil ha noqoto marka jannaladii siyaasiga ahaa iyo jannaladii dhaqanka ahaa ayaa meesha ka maqan ee waxaan adres garayn lahaa anigu waxaaban aaminsan lahay hataa odayaasha dhaqanku hadday u gar dhigan lahaayeen odayaasha maxaanku idhahay abaagudayaasha oromada hadday u gar dhigan lahaayeen war dad soo wada noolaabaynu ahayn oo dad soo wada jira baynu ahayn oo dad sidan usoo dhaqmaybayna waxani kumana sii waaraysaan ee aynu isla meel dhigno khasaarahana wuu jiraaye meel bay noqon lahayd hadda waxa weeyaan loomana saari karo lama odhan karo odayaasha dhaqanka ee maxaanku idhahay oromada ayaa ka dambeeya kow waxaa ka dambeeya siyaasiyiinta heer degaan oromo kilinka oromada ayaa ka dambeeya waa labo siyaasiyiinta heer federaal ayaa ka dambeeya lama saari karo maxaanku idhahay waxaa lagu leeyahay dad oromo un baa wax lahay dadka oromadu waa inay meel macnaha la saaro dadka oromada waxa weeyaan injin baa ka dambeeya motor baa ka dambeeya oo informationka siinaya oo taladii siinaya oo financega siinaya oo hubkii siinaya warada point fiican markaa la saan go ahead qodobkaas inaga tuhunkeena iyo eedaynta inagu dhinacayna ka socon waa inay oromadu dhinac saarto ay tidhaaha waxaan idin laynayaa ama waxa weeyaan waa jabhad aanaan kontrooli karin ama waa tuug ama maxaanku idhahay waa shacab gaara oo shacabkana dee waxa weeyaan luqad lagula hadlaa jirto oo meel lagu xisaabiyaa jira ma wax dowladaa jira marka dowladda lafteedii waxa ka mas-uul ah ciidamadii federaalka ka mas-uul ah oo haddaad isweydiiso oo kale dee inagu taa waxyaabaha hadda aynu qodobo kale aynu ka hadli karno weeye laakiin anigu waxaan eedda saarayaa innaga xaggeenna
ayaa waxa weeyaan aanu eeg waxa weeyaan maxaa la odhan jiray Soomaalidu ku maamaahi jirtay ilaahay suu ku macnaha badbaadiyo waa inaad meel beeshan seexato innagiiba waxa weeyaan dhaqankeennii maxaan ku idhahay ina gabay waxa ina gabay siyaasigeennii ina gabay nidaamkeennii baad moodaa inuu cabursan yahay oo maxaan ku idhaha uu ku jiro waxaan la yidhaaho oo uu ku jiro wixii xamar lagu odhan jiro oo kale ama uu maxaan ku idhaha checkmate lagu hayo dhaqdhaqaaqi karaynin hadli karaynin dadkii aan mateli karaynin waxa fadhiya hadda maxaan ku idhahay xildhibaanaha fadhiya meesha federaalka oo kala fadhiya baarlamaanka waxa weeyaan maya waa inay ishugan waa inay address gareeyaan isku dhacan laba qowmiyadood isku dhacay ma jirayaan laakiin dilkan iyo dagaalkan ay qoladani wado maxay yihiin hana laga siiyo because waxa weeyaan wasiirba u qaabilsan kililada oo wasiirka arrimaha gudaha oo kala amnigii baa qaabilsan oo wadan maxaan ku idhahay qofka Etoobiyaanka waxa damaanadiisa hayo wasaaradda maxaan ku idhahay dowladda federaalka ayaa ka mas'uul ah ama ciidan ha ku ilaaliso ama ciidan nabad sugid ha ku ilaaliso ama maamul kilil ha ku ilaaliso wuxuuna ku ilaaliso dastuurkaas ayaa damaanad qaadayo qofka Etoobiyaanka Oromo ha ahaado ama Soomaali ha ahaado laakiin qofkan Soomaaliga maadaama isaga baangad la daba wato oo la leynayo oo shacab ahaan loo leynayo oo la weerarayo waa in ay iyagu waxay ahayd platformka qof Soomaaliya oo siyaasiya ama heer federaal maxaan ku idhaha baarlamaanka ka hadli karaya ama ay kuba jirtaba ma jirto marka hankiis kuma jirtaba taaba in uu ku xisaabtamo oo dadkan Soomaalida ee la leynayo labo waxa weeyaan midiyaha Soomaaliga ayaa waxa aad moodaa inuu si khariban oo sabab anigu aan maanta nin Oromo oo media leh oo danihii Oromada ka shaqeynaya aan ugu eedeeyo Oromadiibu danahooda ka hadlaya waa game siyaasadeed weeye waa hadalkaygina waxaan ku soo koobaya waxa ay arkeen arrin ay sameyn karaan hadday sameeyaan ayna cidina waxba u raacan kareen su'aashii marka inagu inaan ku soo celin karno Oromadan waxan miyay sameyn kartaa maxay u sameysay waxa xadidi lahaa waxa uu qofku uu sameeyo in loo raacan karo oo lagu xisaabin karo oo loo dabageli karo oo sharci la marin karo oo hadalkaygu kooban waxaan ku soo koobaya Soomaalidu waxaad moodaa inay faramaran tahay oo ay ka faramaran tahay siyaasad ay ka faramaran tahay oo ay ka qaawan tahay wixii la oran jiray macnaha hankii Soomaalinimo oo ay gebigooduba ay ka qaawan yihiin baad moodaa heer siyaasi heer maxaan ku dhahay dhaqan dhinac walba kaba soo eeg tan kalena waxaad moodaa midiyahan Soomaalidu nooc doonaba ha ahaade waxa weeyaan waa dukaamo yar yar oo moodo in uu dana shakhsi oo markaas isaga income-kooda kali ah inuu eeganayaan laakiin inaynaba xataa warka sugan xataa inayna tabin karin ama website ha noqdo ama TV ha noqdo ama ku kala ha noqdo qofka danaha Soomaalidu inayna danaha hadalkaygu waa kooban danaha Soomaalida waxa ku jira oo siyaasigu inuu ka hadla ay tahay inay Soomaalidana ay baraan in danahoodu ay ku jirto sidii ay ula noolaan lahaayeen qoomiyadahan iyo dadkan Ilaahay ku beeray geeska Afrika sidii ula noolaan lahaayeen oo xushmad iyo nabad ay kula noolaan lahaayeen marka anigu hadii wax la weydiin lahaa anigu waxaan oran lahaa dadkan waa dad ay macaamiltamaynay awal channeladan ku wada hadli jirnaa aynu ku wada hadalno oo oday dhaqmeedyadu ha gar dhigtaan oo siyaasigu ha gar dhigto oo ha loogu baaqan nabada waxaanan u malaynayaa inuu waxaanina una ahayn danaha Soomaali iyo Oromo midna ka shaqeynaya laakiin laba ku soo kooban tahay Oromadu way aragtay inay waxan sameyn karto wayna aragtay inay waxan ay ka ayna cidina u raacanaynin koosasina Soomaaliya wax u dabagelayo ma jirin wax u dabagelayaa ma jiro maxkamada noqoto wax kala ma noqoto waxa weeyaan oritaankan Oromadan ninka kiciyay ilaa iyo maanta Soomaalida halala dagaalamo halaga rabo dhulka annaga jigsigale muxuu ahaa dirdhab annaga ku hayo waa Jawaar Maxamed weeyaan Jawaar Maxamed wadanka Itoobiya waad ogtihiin inuu ka ahaa argagixis maantana waa laga saargixiso wuxuu tagayaa bisha Agoosto dhexdeedu tagayaa muxuu ahaa Arsawa oo lagu soo dhawaanaa sida Kenya
dowladda federaalku ma waxay soo dhaweynayaan oo haddii ay ka qaadeen muxuu ahaa argagixisadiisa laga saaray oo uu weli falkii wado in soomaali la qaxiyo oo uu dhibkii weli baafinayo tv-giisiina laga furay muxuu ahaa arsaba program ka dhexeeya dowladda federaalka iyo jawaahir mahjirad ciidan la tahay oo soomaalida rabo dhulkooda in laga raro waa idin furan wuxuu soo gelay saxiinaba anigu waxaan qabaa mahdi ka horeeya raalli ha mahdi anigu waxaan qabaa program ka dhaxeeya jawaar iyo dowladda federaalku inuuna jirin oo soomaali ku wajahan laakiin qofka tuuga ah haddii iridaadu ay furan tahay haddii iridaadu inta kuu furan tahay oo alaabtaadii bannaankaa taallo oy dayacan tahay qofka tuugiina uu og yahay alaabta hadduu qaato inaan askari dabagelayaa oo soo xidhayaa aanu jirin maxkamad la keeni doonaana ayna jirin xeer qabanayaana aanu jirin way goranayaana way qaadanayaan marka dayaca soomaalida nin reerkoodii isku dubaritay oo dantoodii maxaanku idhahayay wax walba ka hormariyey oo dadkoodii u doodayo oo isku habeeyey aniga dayaceenna kuma eedayn karo anigu waxaan taaganahay soomaalida dayaceedaa meeshaa dhigtay therefore macnaha respect la'aanta inaloo hayo qaabka inaloo laynayo iyo qaabka maxaanku idhahay aan cidiba isu weydiinaynin waa inaga dayaceenna marka yaa ina dayacay inagu isweydiino weeye jawhar maynaan ka sugnayn inagaynu kama inaan sugaynin mar walbana wuxuu taagan yahay oromo waa inay danaheedu fairs ay noqoto marka waa in la helo qof kale oo soomaaliya oo yidhaaha danaha soomaalidu waa fairs oo dadkii ururiya oo isku dubarida macnaheeduna kama wado deriskaaga laa oo dabgeli maaha waxaa laga yaabaa inaynu inagu intaa ka caqli badan nahay waxaana laga yaabaa inaynu taariikhda in badan aynu respect aan ku galnay inaynu deriskeenna aynaan dabgelinin sida ay noo xeer inoo taalayna taasi ahayd laakiin hadda waxaa laga yaabaa inay iskuba soo ururi lahayd koox aan marka dambeba laysla garan lahaa war waxani dan oromana ma wadaan dan soomaalina ma wadaan laakiin inaynu inagu meel saarno waxa ka horeeya bal inagu waxaynu horta aynu asturanno oo waxaynu aynu haybsanno oo labadan belood ee deriska sidii aan ku soo tilmaamay dibigan guduudan iyo dibigan cad iyo dibigan madow laga kala dhigay inay saddex dibi yihiin oo dhinacaysa saaraan cidina mayna ahaateen waxa simbale aad ku garan karaysaa dayaca wiilka soomaaliga ee geeljiraha ah wuxuu haysan jiray awal ama soor buu haysan jiray golx buu haysan jiray ama wuxuu haysan jiray qori yar u geeliisa uun ku raacdo maanta haddii xabad lagu arko qori isagoo wata waa shiftay dowladdii baa dul imaanaysa hubkii baa laga dhigay noocuu doonaba ha noqday golxubka xataa looma ogola kii oromada ahaana baangad wuxuu la istaagayaa maxaanku idhaha jidkii weynaa ee baabuurtu maraysa baabuurta uu kala degaya marka waxa weeyaan dadkani xoolo maxaanku idhaha xataa kama ilaashan karaan maxaa la yidhaahaa dugaaggii iyo libaaxii kama ilaashan karaan xataa maxaanku idhaha xoolahoodii geeli kama ilaashan karaan seebuu ga ilaashan karaa marka nin oromaa oo duurka ku jiray oo maxaanku idhaha qorigiisii uu sharci u yahay wuu ka qaadanaya guri baaba haya oromo carab iyo muxaafid way heshiiyeen inagu waa taas weeye dayacana inaynu dad kale inaynu saarno ma aha waxaynan danta guud ee oromo ayay ka horumariyeen dan walba taas waxa weeyaan waa haddii uu soomaali ahaan lahaana sidaasunbuu samayn lahaa soomaalidu ilaa ay taa fahantana inaga marka weeye inaga dhexdeenna weeye giddigeen soomaaliga dayacan inaga ayaa maxaanku idhahay caqliyan u dalacan inagaa siyaasiyan u dayacan inagaa inagaa si walba u dayacan marka dayaceenna inaynu deriskeenna ku eedayna maaha waan ka baxay hadalkaa horta injineer axmed siduu guddoomiyu sheegay kolley waxaan u malaynayaa hadalka nuxurkiisa iyo in yaroo kooban inaan ka hadalnaa wanaagsan haddii kale caawo dhan waanu hadli ma dhammaanayso baasho
saddex arrimood baan rabaa hadda inaan ka hadlo oo soo gaagaabinaya. Arrinta koowaad waa arrinta federaalka iyo roolkooda, laakiin intaan la gaarin meesha hadda la yiraahdo aad weydiisay Moyale waa hadda dagaal baa ka socda afartan, because waxa marka hore aad weydiisay 2016 2017 bay ahayd aan ku sheegay. Hadda almost a week dagaal baa ka socda oo continuous maanta ay ugu dambeysay. waxay raaliyow inta taa u geyn Moyale dadka bal u sharax deegaan ahaan meesha ku taalo sida loo kala degan yahay maamulka laba maamul Soomaaliya magaaladu. hadda ka hor baan sharaxnay kolley Soomaaliduna way wada og yihiin wixii Ethiopia ku nool wixii kale laakiin dibadda ku nool waan maaragtay u kala sharaxaynaa. Moyale waxay ku taalaa meel border ah oo soodinta Kenya iyo Ethiopia, waana magaalo jid ka soo baxa Nairobi ama Mombasa ilaa iyo Addis Ababa laamiga isku xiro weeyaan. ka dugalaya Mombasa ilaa Mombasa iyo Nairobi jidka soo mara meesha uu soo marayo Ethiopia ka soo galaya way. صح wado train ah oo 2030 program la yiraahdo dekedan weyn ee Lamu trainka ka baxayo ilaa Djibouti tagaya wada meesha ay soo marayso way. waa meel very strategic. waxa ummadda loo laynaya waxa weeye ummaddan maadaama ay maaragtay muslim yihiin صح this economic corridor in laga ceersado at a very early stage. planka waa plan dheer وكاستم ugu weyn Ethiopia ya kastamka ugu weyn baa ku yaala la yiraahdo Moyale. the dry port ka ugu weyn Ethiopia meesha ka soo galaya way inta badda maartay Djibouti marka laga reebo Ethiopia waa dekad male wixii ka soo gala Kenya oo dhan meesha ka soo galayaan way. صح go ahead marka ha su'aashaada ugu noqo. hata waxa kaas ku sii weheliya trainka soo maraya waan ku sheegay magaalada geeskeedu maraya Oromadu waxa gubaya ay ka guuxaya waxa weeye inay ka eriyadaan Soomaalida meesha. shantan bari hadda dagaalka u socday ceel goof meel la yiraahdo biyaha magaalada ay ka imaanayaan bihii bay gooyeen. maxaan ku yiraahdaa tuulo yaro 5 kilomitir u jirta magaalada la yiraahdo Jamuq guriyay wada gubeen. aroortii bay dad ku soo galeen, jimcihii dad salaad tukanayay soo galeen. adigu 18 mar dhimatay 14 dhaawaca iyo 10 dhaawaca iyo 8 dhimatay. marka waxa weeye 17 waa latest-igi weeyaan Soomaa latest-igi weeyaan for the last 4 days. kawar sir haye marka ilaa hadda waxaan hayo aan report ka hayo dadka deegaanka degan markaan la hadlay shalay maanta la xiriiray 18 ilaa 8 waa 6 iyo 20 oo dhimasho ah iyo 37 qof oo dhaawaca. dad badan oo la leeyahay oo meel ay ku sugan yihiin la leeyahay way jirtaa. intaas oo gurina way gubeen, tuulooyinka waa laga wada qaxay. marka meesha waxay ku tusaysaa xoogaa sometimes waxay isleedahay horta yaa ii maqan aniga yaanse matala aniga reality in laga hadla way. maarunta meesha haddii democracy uu ka jiro, freedom of speech uu ka jiro, dadka maamulka Soomaalida haya madaxweyne leh oo gudoomiye baarlamaan leh oo baarlamaankii dhamaa baarlamaanka federaalkana way ku jirtaa Soomaalidu, baarlamaanka maxaan ku yiraahdaa kililkana way joogaan Ethiopia oo boqolaalana meesha fadhiyaan jisiga. at least in laga hadlo baarlamaanka qaraar la soo saaro la yiraahdo ummadeena la gumaadayo annagu ma qaadan karno si voice kooda federal government ku maqlo oo collective ha yeah it's a democracy, it's your democratic right, is within the constitution. صح marka meesha waxa ku tusaya caburin inay jirto bullying la leeyahay dadka ma hadli kartaan. hadda ra'iisul wasaaruhu hadda wuxuu ku dhawaaqay nin walba inuu hadli karo dimuqraadiyad fuula la qaatay oo muxuu ahaa maxaa marka ay hortaagan dadkooda uga hadlayeen dhibaato lagu hayo. I don't believe ma rumaysan Engineer Ahmed hadday jirto dadku way hadli lahaayeen. qof walaal dadkiisa la laynayo oo u jeeda dhiigooda صح in la laynayo la gumaadayo on a daily basis on hadlaynin. There must be something waxyaraan logically inaan fikirna way moqt maarunta marka ummadda waa in ay helaan meel ay ku sheegtaan cabashadooda.
dowladda federaalku dad bay u soo diri kartaa militariga magaalada way joogeen way daawanayeen inta shacabka la laynayay oromadu ilaa iyo gudaha ayay ka imaanaysay baabuuray ku imaanayeen soo gurmanayeen Soomaalidan wadada way ka go'an tahay Soomaalidan wadada ay hayda iyo biyaha iyo ku heli lahayn baadka way ka go'an tahay haye 11 bilood buu dagaal ka socda mooyaale waa long time weeyaan long time ilaa hadda wax ee dowladda federaalka ay ka qabata ma jirto marka anagu dowladda Soomaalida Itoobiya maadaama dadkan mooyaale ay tahay shacabkii soo doortay dowladda ay matalayeen maxay uga hadwaayeen waa waxaan garan laana anagu waan ku sheegay meesha ina freedom of speech uusan ka jirin there is a pressure on them waxay human rights iyo waxaan ay sheegayaan oo report ay dadka ka qorayaan there is nothing called human right hadday jirto ciyaalka Palestine ee qoriga beerka lagala dhacayo oo baynaadka lala dhacayo ma laga hadlo ilmaha Syria bomka lagu laayay ma laga hadlo human right hadday jirto Yemen waxa awood loo sheegto la wada burburiyay ma laga hadlo where is human right cidii la doono baa maaragtay musbaarka dabada looga rogayaa ayaa lagu leeyahay human right baarunta waa hay'ad la samaystay in dadku lagu guumaysto loo samaystay there is no human right waa organization hadda lagu caburiye laftiisa waa wadaadkii oran jiray muxuu ahaa usha la jiifiyaa banaan la joojiyana banaan nimankan human right watch la yiraahdo kolba meesha la rabo baa lagu isticmaalaa in lagu furfuro ama lagu kharibo waxa dhabta ee jira kama hadlaan hadda deegaankeena dadkii la xasuuqay ee oromadu laysay ee baangalaha lala dhacay hal ribood ka qoreen ma lahan marka waa one side story human rights one side story way haddii the list they can do inay u diraan militariga magaalada jooga xataa amar ku siiyaan oo yiraahdaan dagaalka la joojiyo shalay ugu dambeysay waxay yiraahdeen amar ba maanta la soo siiyay week marka dadka la dhameynay tuulooyinka ay tageen meydadkii dadka la qaadi lahaa la duugi lahaa bay dadka ka celiyeen inaan dadka meydkooda la qaadin oo la aasin ma waxaan leenahay waa dowlad dimuqraasi uu ka jiro marka dadku ay ku hoos noolan karaan dhacdooyinkan qaarkood waxyaabaha qaabka u dhacayaan inaynu waxay raalaha deeqa lama maqlasmiya freeze bay noqotay deeqa welcome aan ku soo celiyey deeqa maqlaysaa freeze bay noqotay ha freeze bay noqotay aan ku soo celiyey go ahead gudoomiye waan horta waa sax waxyaabaha aynu ka wada hadlayno oo dhan laakiin si aynu aragto topiga maanta inooga baahin issuegan human rights iyo waxyaabahaas ay qoreen iyo inaynu topic kale u dhigana aniga ila quman haddii aynu soo galaysaayo dadkan la laynaya maxay uga hadli waayeen weeyaan marka way soo galaysaa it comes under the human right dadka la laynaya human rights ma ka hadlaan bahdi waa runta laakiin adigiiba haddaadan hadli karaynin oo adigii aad ishakranayso oo adigii aad inagii aynu isdayacnay federaalkaanu ka hadlaynaa gudoomiye federaalka kama sugayno dowladda federaalkaanu ka hadlaynaa dowladda federaalkaynu ka hadlaynaa kusoo gala darada aan kugu soo celiyey maxaa tiri go ahead deeqan la hadlaye gudoomiye go ahead waxaan anigu haddaan waxyaabaha na dayacayo waxa ka mid oo kale hadda ciidankan federaalka ee loo yeedhayo waa isla oromadii un weeye sarkaalkan wataa waa oromo ciidankan meesha socdaa 70% waa oromo ama 60 waa oromo marka ciidan had iyo jeer hadda meesha la yiraahdo Rwanda oo kale markuu xasuuq u dhacay wadamo waxa joogay maxaan ku iraahayay matalayay UN matalayay oo peacekeeping matalayay oo joogay marka freeze waa noqotay waa weyn dibban ugu noqon ay maqashaan marka codkii waan maqlaa maxaan ku iraahdaa ama ciidan joogo ama ayna dawlad joogin mar haddii meesha uu iskalash u jiro
waxa weeyaan had iyo jeer dhacdada taariikhiga weyn waxyaabaha aynu ka eegno hadda meeshan la yidhaahdo Rwanda oo kale dee baangad iska dhaaf hub iska dhaaf markii baangad ba xataa la isku xasuuqo oo intaas milyan wax dhan dib ku diray dadna way joogeen maxaan ku idhaa dawladda adduunkuna uu daawanayay ciidamana way joogeen xoog la oo waliba maxaan ku idhaa UN mandate ku joogay marka khaladku marka uu dhacayo had iyo jeer exactly lama wada qaban kara laakiin waxa weeyaan protection kaaga ayaa mar walba guarantee wax ku siin kara adiga macnaha qoomiyad ahaan iyo dad ahaan adigu protectionka qaaska ee leedahay laakiin haddii aad tiraahdo maxaan ku idhaa ciidamadan maxaan ku makalkiyaaga ama federaalka ayaa na dayacay ama waxa na dayacay hay'ad kale anigu ma oran karayo taas macnaha ima sameynaysa sense laakiin inaynu toos aynu u abaarno in aynu inagu marka hore dayacaadan aynu ka baxno aynu dayacannahay si walba taas marka aynu istaagno waxbaa at least inoo badbaadaya resistance yar baynu yeelanaynaa hadda waa sidaan macnaha anigu aan taagan ku adkaysanaya saddex dibi oo kala midab lagu jeediyey kolba mid haddii la cuno macnaha dee wax eed kale ma jirto iyagu may gartaan inay hadday dhabarkaysa saaraan ciidina uma soo dhowaan karto ma cuni kara maxaan ku idhaha dugaagaasi ma cuni karaan maxaa markaa keenay in saddexdaa midab ay marka hore inagu aynu ka yeelano dibi xasi dibi cad aynu kala noqono oo inu ku hendisho aynu idhaahno may dibiga cad maanta ha ugu horreeyo ha la cuno taas weeye khaladku meesha uu ka bilaamaya oo inagu marka hore midhigihii baynu maxaan ku idhaa ka aradanahay baan ku nidho ka dayacannahay waxaynu ka dayacannahay maxaan ku idhahay dhaqankii baynu ka dayacannahay siyaasaddii baynu ka dayacannahay meel aynaan ka dayacanayn ma jiro dadkan maxaan ku idhahay hadda meesha la yidhaaho balbaleyti oo kale markii lagu maxaan ku idhaa dadka lagu xasuuqayay ee lagu soo xereeyey maxaan ku idhaa meesha saldhigii booliiska lagu soo xereeyey ninkii watay sarkaalkee meesha yimid sarkaal maxaan ku idhahay nin caruuse abuu ahaa he doesn't care about kuwa ayar baa loo soo dabamaray waxay doonaba haatay laakiin maanta waxa weeyaan investigation miyaa laga sameeyey miyaa report laga sameeyey miyaa maxaan ku idhaa cid lagu accuse gareeyey miyaa cid maxaan ku idhaa loo daba raacdo oo lasoo qabtay waa maya weli waxaa laga yaabaa in xataa xaggan maxaan ku idhaa dadkan la laayay xataa loo soo maxaan ku idhaa eedo loo soo tuuro dadkii Soomaalida ahaa la diray bay intay Oromo meedadkeeda sawirataday waxay dhaheen waxaana laayay bay dhaheen booliska oo aan xaga lagu soo gudiyay gabadha halkaas siino waa eg ma ka baxday ay go'ay farsamada hadday iyagu isticmaalaan oo ay cidina u daba raacanaynin oo siyaasad ahaan loo daba raacanin oo sharci ahaan loo daba raacanaynin anigu waxaan taaganahay Soomaalidu ha ka baxdo saddexdan dibi ee kala midabka koow wixii kale ee dayacaadana ha hagaajisato go ahead gudooda soo deeqa waa freeze weli soo ma freeze waa wato ku soo noqonaysa hadda ha marka anigu waxaan qabaa inaynu dadka lagu wacigeliyo inay saddexdaa dibi ee macnaha kala qaybsanaanta oo dadka qaarkii ay leeyihiin maxaan ku idhahay reer hebel iyo reer hebel oo Oromo iyo maxaan ku idhaha kil Oromo iyo kil Soomaali ka raacsan baa jiro oo kale hadda waxa weeyaan jaarse iyo gari maanta oo kale oo wiil iyo abtigii inay maxaan ku idhahay meesha isku rafaadiyaan waa qalad meelaha qaarkood oo kale waxaan kale inay isku rafaadiyaan waa qalad dadkan ordayana waxa weeyaan waa dad maxaan ku idhahay loo odhan karo kow horta wixii ka soo baxay maxaan ku idhahay jabaadadoodii duurka ku jiray dad maxaan ku idhahay kaba masayrsan Soomaalida noloshan yar ay haystaan beertan iyo geela yar ay haystaan marka anigu waxaan qabaa inaynu inagu dib isugu noqono oo aynu dib isu habayno oo aynu ka baxno kala qobnaantan aynu ka baxno ka bacdina aynu maxaan ku idhahay sidaynu Oromo ula xaali lahayn aynu maxaan ku idhahay sameeyno point of contact uu noqdo markaa waliba anigu aan aaminsanahay in shacabtu shacab aynu haano shacabkeena oday dhaqmeedkooda iyadoo dhaqmeedkooda loo gol dhisho la abaaro oo la yiraahdo waxaan ma shacabkiina mise waa dawladdiina taa waxaan ka leeyahay gudoomiye markii odayaal iyo oday dhaqameed laga hadlo waa markii dadku ay wanaag doonayaan dadkani arrin fog ayay wataan ma u malaynayo inay u joojinayaan Soomaalida waxa la yiri qaniyo baa ka fujisa
والمينا si kaloo maaragtay dadkan ay kaga xishoonayaan ma jirto baxna marka eeg maya dastuurka Ethiopia u yaala ee dadka maaragtay qoomiyadaha Soomaalida qoomiyadaha Ethiopia dhan ay ku wada dhaqmayaan way annaga kaliya na qabanaya Soomaalida kaliya qabanaya iyaga uusan u qabanaynin ilaa iyaga ya madaxdii ah dambi bay ku jiraan dambigooda in lagu cadeeyo way dambigooda in lagu cadeeyo la yiraahdo ummadii baa dayacdeen meeshay ku jiraan dadkii caburnaa fiiri hadalka dib u fiirso 27 sano dad caburnaa oo in lef la yiraahdo dur ku jirana lagu soo daayay waa la soo daayay well rehabilitation looma sameeynin nin walba guriga hooyadii buu qorigii shalay haysta la yimid dadkii gumaadaya yes dadkii bay ku gumaadayaan ciilkii ay u qabeen ay ku caburnayeen 27 sano ayaa Soomaalidu lagu baxaya maanta marka meesha ugu maartay nimankan Kenya ka soo dagaalamayeen meesha ugu dhow ay ka soo galeen waa Moyale oo ay rabaan in Ethiopia ka galaan waa xadkii weeyaan xadka Kenya ka soo dagaalamayeen buuraha xadka Kenya ku yaalay ka soo dagaalamayeen oo 20 sano marka waxa meesha ku jirta political tension oo ah anigan hadday waxaan aan soo qaadnay Jawaar Maxamed Yurub buu joogaa hadda daraad waxay meeting ku lahaayeen German Munich meel la yiraahdo Switzerland London xataa inuu yimaado laga yaabaa waxaa ku jira nin la yiraahdo Dr. Mararsa oo xirnaa Ethiopia ku xirnaa hadda la soo daayay ma garat niman kuwa mucaaradkooda ahay kuwa muxaafidkooda hadhan way heshiyeen waxayna ku heshiyeen dantooda guud strategic targetka waa Soomaalida engineer Ahmed aan dhamaysto Roma hadda ka hor wuxuu igu yiri Hargeysana annaga leh maxaan ku yiraahdaa Kismaayana annaga leh wuxuu igu yiri caabud waaq macnaheedu ma taqaana caabud waaq meesha ku taala waa taqaana waa gobolada dhexe Soomaaliya صح wuxuu ku leeyahay xuduudkeena waa meel la yiraahdo dadjadjo waraab oo ku taala maxaan ku yiraahdaa luuq gedo marka ninkan dadka waa dad dhul ballaarsi raba oo Soomaalida ama ha ahaadaan kuwan DDS ay ama Soomaalida xorta ha ahaadaan dhulkoodii ku raba inay ku qabsadaan waxa weeyaan waa programkooda waa halkan kuma eka kililka maaragtay shanaadiyo kuma eka programkooda waa nin Hargeysa ka hadlaaya Kismaayo ka hadlaaya bal u fiirso maalin dhow waxa la soo saaray ilaa iyo 500 300 400 bay ahaayeen waxay ka lugeynayeen xadka waxay u sii lugeynayeen muxuu ahaa waana wada dhalinyaro kulli Oromo weeyaan iyo wax kale isku jira waxay luq rabeen inay ku galaan Boosaaso iyo halka luq inay ku galaan bay rabeen marka meel xada lagu istaajiyay oo xagee u socoteeno Boosaaso aan soconaa waxaan u sii gudbaynaa Yurub baan u sii gudbaynaa nin baa marka wuxuu leeyahay war nimankan Yurub uma socdaan Boosaaso inay degaan bay rabaan dhul bay rabaan nimankan ha loo sameeyo kaaran oo hal la ogaado haddii kale to kugu dhaxmilmayaan wadankana ma qaadanayaan marka boontiga wax jiro weeyaan Oromo 40 milyan weeyaan 40 milyan dhul bay raadinaysaa dhul ku filan bay raadinaysaa iyo bad bay raadinayaan in Soomaali ay iska ilaaliso hadday Oromo rabto in nabad lagu noolaado hal wala noolaado Oromo hadday rabto in dhul boobtana Soomaalidu ama DDS ha ahaato ama Soomaalida kala ahaato waa in arrinta ka dhidiyaan iska celiyaan horta bini aadanka hadalkaada watay engineer laba shay un baa ka celiya one waa dastuur iyo sharci صح wadamada America iyo Europe ma aanan joognayn sharci iyo dastuur duusan jirin dadku way isgareeyeen the rule of law inay dadka maaragtay u dhaxayo dadka kala celiso way صح oo ahayn dadku ay xoog ku noolaadaan qofka uu ka xoog badan yahay oo dhinacu doono u riixo صح Oromada maanta chance bay heleen haye oo dhowr iyo 10 maartay inta boqolaal maartay sano iyo century la soo maray xukun ma soo marin Oromada my first time history their first time way okay marka waxa ku jira emotional feelings oo ah inay dadka maartay population keena iyo xoogeena ku qaadano kale xukunkana waxa loo siiyay maxay ahayd si xal loo helo oo civil war aysan uga dilaacin Ethiopia ayaa loo siiyay oo uu wadanku kala burburin
Yeah, they are taking the kindness of the all Ethiopians to the weakness. That's right. Yeah. marka nin ku dhahaya caabud waaqi macnaheeda ma taqaanaa wuxuu ku leeyahay ilaaha caabud weeyaan oo af oroma bal caabud waaqi meel ay ku taalla xusuuso nin hargeysii kismaayo ka hadlaya haye oo luuq ka hadlaya de mooyaali iyo maxaan ku yidhahdaa jigjiga halkan ba iska wataaya iyo dildhaba muxuu arkaade marka jabuuti boqolaal kun oo refugee ayaa joogta oo Ethiopiana boqolkiiba 95 waa Oromo صح Djibouti bay ku banaan baxeen oo they demand for a passport ay leeyihiin passport hana la siiyo anaga bay wadankooda ku noqdaan ka qaataan passport haye oo de qasaba oo xooga ay ku banaan baxayaan Djibouti barhelka ay marayaan feeri marka Oromadu dalbalaarsi aan caadi ahayn bay wadaa dawladda federaalku way la ogtahay dawlad goboleedka maxaan ku yiraahdaa Oromo regional state way la ogyihiin rumors ka saan maqlayna waxa la yiri dhul umbaad ku haysiinay within 3 days waa inaad ku qabsataan degmooyinka aad sheegaysaan waxa kale kugu daraya walibana maap uu soo sawiray ninka Jawaar Maxamed Toos maap soo sawiray oo uu ku qoray Oromiya uu ku qoray ilaa iyo Saylac oo kala jaray Djibouti iyo Somaliland kala jaray oo Saylac bad ka dhigay haddaad gasho muxuu ahaa Facebookiisa maapkaas ugu jira that means waxaan ma raadinayaan dhul kaliya bad bay raadinayaan marka waxa weeyaan Soomaalida DDSI iyo Soomaalida kale taba hurdada laga kaco wad doobi waa runtaa waxaanu ka hadlayno horta haddii aanu dib ugu noqono uun qoladan intentionkooda iyo damacooda iyo waxa haddaynu ku noqnoqono xalna ma gaadhayno waxna iskama dhicin karayno laakiin anigu waxaan qabaa inaynu inagu hoos dib isugu eegno intentionkooda iyo waxana waaba iskaba caddahayba oo Oromo ka soo xataa qolo kale xataa hadaynu daris ahaan lahayn sidan un bay u dhaqmi lahaayeen qolo kasto inuu darisnaay sidan un bay u dhaqmaysaa hadda canfartoo kale hadda maxaan ku dhahay dhibtaasoo kale ayay maxaan ku dhahay isla marayaan maxaan ku dhahay Soomaalida beelaha Soomaalida ay dariska yihiin Soomaalida ay isla marayaan laakiin canfartu ma haysato fursadda ay haysato tan sidoo hadda maadiya dadka waa aaminsan yihiin marka arin isku balance garay waxa la yiraahdaa meel waxay khaldamaan macna arin meel haduu dhib ka dhaco laba arimood midkood baa dhaca ama wax aan awal meesha jiri jirin ayaa ku soo biiray ama wax awal meesha ku jiri jiray ayaa ka baxay marka balance kii yaalay meeshan qarniyaal yaalay ayaa waxa weeyaan wax maxaan ku yiraahdaa wax ku soo biiray waxna ka baxeen dhinacii Soomaalida sidaan anigu soo sheegay wax badan baa ka baxay waxana dhinacii Oromada ku soo biiray wax badan baa ku soo biiray therefore maxay isku soo ururtay arrinkaasi inay Soomaalidii dayacan faraha badan ay taalo tuug awalba baahidu ay haysay oo arkaya wax dayacan oo hadduu uu la boodo ayna cidina yac ka dhahaynin haddii uu la tagana ayna cidina waxba u raacanaynin arrinku halkaas u maraya marka maxaa sidee wax looga qaban karaa marka waxa weeye bal horta waxaan meesha dayacan in maxaan ku dhaha loo sameeyo dayactir loo sameeyo oo wixii dayacan dhigay maxaan ku dhaha maxaa dayactirkoodii loo sameeyo xag dhaqan haday noqoto xag siyaasadeed haday noqoto xag aqooneed haday noqoto xag maxaan ku dhahay hami iyo qami qofka sinjiga Soomaaliga haday noqoto qiimaha qofka Soomaaliga haday noqoto Soomaaliga marka Oromo kuma respect garaynayso adigoo sidan u kala yaalo oo sidan u kala dayacan oo hankaagii siyaasiga uu maxaan ku dhahay inaad qoomiyad kale inaad daba ordo mooyee aan macna kala ayna lahayn qofka Soomaaliga wuxuu aaminsanaa inuu dadka ugu koreeyo hanka Soomaaliga xataa ul kaliya xataa haduu haysto usha kaliya ayaa wax walba uga awood badnay marka waxa ayna hadda ay anigu arrinka aan ku uba fudud oo ku soo koobi karna
soomaalidii waa dhowrkaa dibida ee kala midabka ah marna kolba mid ku jeesan kolna xisaabi ku jeesan kolna kii midoobaabay ku jeesan xaqdarradu kaliya kama jirto muxuu ahaa deegaanada top bay ka jirtaa sababtoo waddankan Ethiopia 9 qowmiyadood baa ku nool 9 maamul 9 maamul 9ka maamul 4 maamul unbaa taladii waddanka haddii ay noqoto doorasho haddii ay noqoto decision weyn oo la sameynayo unbaa samayn kara waxaa talada waan ka baxay laakiin sidayna wax u ahayn baan kuu sheegayaa 4 qowmiyadood oo ah Tigray Oromo Benishaqul nimanka dhaxaa Southern iyo Southern Ethiopia shucuubta koonfureed iyo Amhara Soomaa 4 afartaas talada waddanka haya waxaa hadda ra'iisul wasaare intuuna qabsanin qorshe waxaa socday in la ballaariyo oo dhammaan lagu soo daro 5 maqan si power balance halka uga yimaado oo berito haddii election yimaado 2020 election yimaado ninka Soomaaliga ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya ka socda ama xisbiyo kale haddii la sameeyo ka soconaya uu hawoon karo inuu maartay ra'iisul wasaare ka noqon karo waddanka Ethiopia taasi ma dhicin maxaa hortaagan oo ra'iisul wasaare wax uga qaban waayo waa idin furanta labadiin oo qaba ninkii maartay su'aasha jawaab waayo welcome mahdi umad games horta runtii jawaab kooban uma hayna taas laakiin de hob wuu jiray oo ah qorshe ah in lagu soo daro oo March 2018 oo kale ayaanu maqalnay dadka kililka joogay ee noo sheegeen saan warka ku maqalnay laakiin wax qoraal ah maana arkin ama dawlad ka socda ama dawlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ka socda oo qoraal official maana arkin haddana maadaama waddanka qalalaasi iyo waxyaabo badan oo isbedel ay ka yimaadeen hadda 2019 baa loo gudbiyay baan maaragtay maqalnay marka taa wax qorshaha maaragtay long term plan ku jiro de la sugayo weeye laakiin waxay ku xiran tahay de qofba meeshuu isdhigay maaragtay laga amba qaadaya waa inaad adigu la timaadaa kalsooni siyaasadeed maaragtay maxaan ku yiraahdaa Soomaalidu kililada kama liidato runtii horumar way sameeyeen dhaqaale hadday noqoto xagga dhul hadday noqoto infrastructure maaragtay badan bay maaragtay development bay sameeyeen oo de xag walba ah waxaa kaloo meesha ku jira oo la rabo in Soomaalida walaalahay aan xasuusiyo inkastoo qof walba uu og yahay haddaanu nahay dad is sharfaya oo macnaha kala dambeeya oo maamulkoodii iyo shacabkoodii si fiican isku xidhan yihiin waxaanu noqon lahayn first priority oo Ethiopia ka noqon lahayn maanta why resource aan ku jirin gobolada kale ayuu ilaahay dhulkeena dhigay dhulka Soomaalidu degan tahay waa in lagaaga dambeeyaa waa in sida isha xuubka looga ilaaliyo lagu ilaaliyo weeyaan laakiin taasi waxay dhici kartaa marka walaalaha meesha wada degan xisbiga dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo kuwa mucaaradka sidii Oromadu gacmaha isu qabsadeen oo wada shaqeeyaan u liidirkeeda ay noqdaan oo ay muujiyaan inay dad yihiin oo wax xukumi karaan waxna iska tanaasuli karaan ilaa taa la helana halka aad hadda maanta taagan tahay umad ka sii liidanaysaa halka maanta taagan tahay umad ka sii liidan waa good point halkaas ooga baxaytaa gudoomiyaha maxaa ku dari lahayd anigu kolley meel kalena wax iga muuqdaan ma aaminsani hadda wax dambe oo maaragtay EPRDF lagu soo daray maxaan ku rahay dawlad deegaanka xisbigiisa iyo inay halkaas aniga igama muuqato because inuu EPRDF inay sii jirayso ama inay weji kala yeelanayso aanan muuqaninba waxaase shaki igaga jira iridahan loo furay xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo wixii xataa hubaysnaa oo dhan siyaasadii ka qayb qaata la yidhi isku darka haddii ayna ku jirin macnaha ururadan mucaaradka ee ama qoomiyada ku salaysan ama xuquuq maxaan ku dhaha xukun dirir ku salaysan ama xorriyad dirir ku salaysnaa ee noocyada faraha badan ahaa
haddii ayna ku jirin oo intii hore ay ahaan lahayd waynu odhan lahayn way gaadhay waqtigii ama waaba overdue oo waqtigii way soo dhaaftay ay dowlad deegaanku ay ka qayb qaadan lahayn hogaaminta maxaanku idhaha iyo talagoynta Ethiopia way soo dhaaftay waynu odhan lahayn waynu ku doodi lahayn laakiin hadda marka qolooyinkan ay ku soo darsamaan waxa weeyaan Ethiopia macnaha waxa isbedelaya habkii uu siyaasadda Ethiopia wax loogu kala goosanayay ama loogu looltamayay ama wax isbedelaya macnaha qaabkii maxaa loo oran jiray xeerkii iyo waxa isbedelaya iyo wixii oo dhan ba isbedelaya siyaasadda Ethiopia ku socotay marka waxa dhici karaysa inuu xisbi kale ka soo baxo waxa dhici karaysa in EPRDF tan lafteedu inay kala jabto oo ama qaab qoomiyadoodu kala dhacdo ama qaab kale laakiin aniga tuhunkayga labadan qoomiyadooda Ethiopia yiraaho waa ugu badanahay axmaarada iyo Oromada ayaa tira ahaan marka la eego dhul ahaan marka la eegana labaad ay tahay resource ahaan marka la eegana number 1 ay tahay haddii ay soo baxaan may maqlaysaan haddii ay soo baxaan Soomaali hankeedu wax macnaha ku xisaabtamaya qaabka noocaas oo ah haddii ay dad tiradii noqoto waxaan ahay number 3 hadday dhul baaxadii noqoto waxaan ahay number 2 hadday dhul khayraad ay noqoto waxaan ahay number 1 xisaabtii kaarka uu ciyaaraya qofka Soomaaliga saddexda noqdo uu noqdo number 1 baan haystaa number 2 baan haystaa number 3 baan haystaa marka ninkaas waxa weeyaan umaba hoos dhici karo inuu helo qoomi maxaan ku idhaahay awoodii siyaasadda ahayd ama koowaad ku soo isugu soo biyo shubanaysa ama labaad buu isugu soo biyo shubanaysa haddii uu khasaaro ka saddexaad buu noqonayaa marka awoodda qaybsiga Ethiopia la yiraahdo marka in ay heerka ay gaadho mooyee haddii kale de waa nala xarfadeynaya sidii khasaar maxaan ku idhahay naloo xarfadeeyay dhowr iyo sagaashankii naloo xarfadeeyay qaybsanaantii waagaa taallay baana taalla oo dibiyadii kala nooc ahaa reer hebel baa nahay reer hebel baa nahay iyo 100 calan oo kala jira marka Soomaalidu inay kor u foofto oo midnimo ay la timaado oo aan lagu foofin maxaan ku idhahay reer hebel madax xafiiseed kama haystaan dowlad deegaanka kama haystaan iyo maxaan ku idhahay hebel baa maxaan ku idhahay maanta dowlad deegaankii madax ka ay war wax ka weyn baynu leenahay kor ha loo foofo wada jirka iyo ilaa aynu la nimaadnana dayacani ma dhammaanayo ta kalena waxa weeyaan waa in uu habdhaqanka siyaasiga ah ee dadka dowlad deegaanka ku nool ee maamulka haya waa inuu koro horumar xagga dhaqaalaha maxaan ku idhahay iyo jidadka iyo wax oo dhan waa la arkaa laakiin waa in la koro oo siyaasadda laga koro waa in la qaan gaadho waa in qofka Soomaaliga cirdigiisa iyo dhiigiisu uu wax qiimo leh u noqdo kow uu horta ka xaraan noqdo kan Soomaaliga ay isla yihiin oo cayda ka daayo oo dagaalka uu ka daayo oo madax salax uu ka daayo halka kii Oromada ahaa uu kiisii mucaaradka ahaa iyo kiisii jabhadda ahaa iyo kiisii wax kala sameeyay oo madaxa u salaaxayo waa inaynu madax salaaxa aynu la nimaadno oo kow ay mas'uuliyiinta ay ka bilaabantaan anigu aaminsanahay oo ay ka bilaabanto uu waafi u noqdo oo maxaan ku idhahay gogol deeqi karta kan nacab kan jecel kan taageeraya kan maxaan ku idhahay ku cadowga waxaas oo dhan u sameeyo in maxaan ku idhahay cadow laysu maxaan ku idhahay deegaan ka dhashana waa wax caadi oo la arka laakiin waa inuu ka xoog badiyo kan maxaan ku idhahay samaha wada kan maxaan ku idhahay midnimada wada waa inuu hafiyo uu ka xoog bato uu galgacal iyo midnimo uu ku hafiyo cudur ba adduunka jira ilaahayna muxuu abuuray daawadiisu abuuray laakiin hadba kii la xoog saaro baa maxaan ku idhahay guulaysanaya anu marka waxaan aaminsanahay ciddii xataa wax tabanaysa ciddii maxaan ku idhahay wax nacab in gogosha loo fidiyo oo samaha lagu dayo oo daawada lagu dayo oo dagaalka iyo maxaan ku idhahay iyo cagajugleynta iyo cagwasadina meelnaba ayna gaadhayn
maanta waxa aynu aragnaa dadkii muddo 7 maxaan ku hadda waa 20 aan u malaynaya argixiso la qoray oo la qoray maxaan ku idhahay la qoray oo dagaal kasta lagu sameeyay ama amxaara ahada ama oromo ahada ama soomaali ahada maxana marka mucaarad hay'ad dagaalamayso oo dhan maanta inay soo istaagtay dawladii Itoobiya soo istaagtay dadkan waa xaqlayaal oo gacmo furan lagu soo dhaweeyay agweeri waxa weeyaan dad inala mida ayaa waxay gaareen bisayl heerka siyaasadeeda hal mayl bayna laga horeeya waxayna laga horeeya 10 sanadood baa siyaasadda ina laga horeeya aynu qaan gaadhno aynu korro siyaasiyiinteen waa inay qaan gaadhaan waa inay koraan anigu waliba waxaan jecel si yeelan macnaa siin lahaa dadkan dhalinyarada ee hadda ku jira jaamacadaha ee maxaan ku yiraahdaa jiilka soo kacaya waa inay kor u foofaan oo waxa ka maqan ay ogaadaan oo kor u baxaan iyagoo on xumaatirsaynaynin sida oromaduba maanta ama banaanbaxa ku helaan waxa ku helaan qalin inay ku helaan wixii xaqooda ahaa oo qofka Soomaaliga ee Itoobiyaanka inuuna ka hoos dhicin ama waa inuu number 1 noqdo ama waa inuu hadii celcelis ay noqoto number 2 noqoto haduu khasaaro waa inuu awoodda saddexaad u helo ragsa oo xisaabtamaya jiil nooca u xisaabtamaya waa inay soo baxaan oo han weyn leh oo waafi ah oo cid walba qaadi kara oo dul cid walba ay ku qaadaan leh marka anuna arkaas ka baxaan waxa weeyaan dadkan Soomaalida waxay u baahan yihiin in tareerin badan la siiyo xuquuqda ay ku leeyihiin federaalka maba garanayaan badidood waxa weeyaan in tareerin la siiyo dadkan maskaxda maartay open looga dhigo wax la baro la baraarujiyo oo xaqa ay ku leeyihiin federaalka ay si sharci oo nidaam ku raadsadaan dawladda maanta federaalka Itoobiya Abiy Ahmed hogaaminayo waxay la timid furfurnaan waxay la timid dimuqraadiyad waxay la timid waxaan Itoobiya hore uga dhicin within 3 months ayuu intaasoo tallaabo oon weligeed hore loo qaaday waxaa ka muuqata inuu maartay diyaar u yahay inuu Itoobiya furfuro waxaa loo baahan marka dadka Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalidu inay furfurnaanta iyo siyaasadda iyo isdhexgalka iyo isjacaylka inay ka qayb qaataan lana qabsadaan kuwa mucaaradka ama oo la faahaadaan ama kuwa kala ahaadaan inay wada hadal wax ku raadiyaan isfahan wada hadal discussion la soo fariisto la isqanciyo walaalo maxaan ka haystaa maxaan ku siiyaa la iscafiyo reconciliation la sameeyo hadii kale ta Soomaa waxa inaga baa la isu keen adeegsan midba midka kale dhabarka ka geliyo ninkan Amiin Caamir fikirkiisa wuxuu ku gudbiyaa kartoon ilaa 1991 markii Soomaaliya burburtay ilaa maanta kartoon musawiray waxa walbana uu ka hadlana way dhacaan waa ninka soo sawiray 10 nin oo wada qaawan oo Soomaali ah oo mid walba midka kale toorada ka sii gelinayo kana dhacay ka kala sii gelinayo kana dhacay qabyaaladu ma caayay Amiin Caamir laakiin dad fara badan oo taageera way jiraan oo fikirkiisa aaminsan dad aad u dhaliilaana way jiraan anigu shakhsiyan mana raba inaan dhaliila hadda marka waxa loo baahan taas waa iska tusaale weeye kulley soo qaatay waxaan leeyahay magarata dadku inay maartay las cafiyo oo la wada maartay heshiiyo oo hore loo socdo Itoobiya wax lala qabsado maanta deegaankeena qani weeyaan 8 bilyan baa lagu xisaabtamay inay ka soo wato dollar oo har kaarasi inay ka soo xarato dadkan in maartay la tababaro oo ay ka shaqaysanayaan deegaankooda maartay ay wax la qabsan Itoobiya loo baahan Mahdi go ahead dadku waxay u baahan yihiin runtii civil education wax la yiraahdo siyaasad ahaan iyo dastuur ahaanba dadku inay biseel la yimaadaan صح dad yaroo kooban ayaa maaragtay siyaasadda maaragtay fahansan shacabka xaqa ay ku leeyihiin federaalka horta waa inay ogaadaan of course in la baro weeyaan laga baro TV iyagu xuquuqda iyaga dhexdooda isku leeyihiin qofka Soomaaliga iyagu dhexdooda isku leeyihiin oo maamul ahaan iyo maxaa shacab ahaan maamulka kaliya wax ma qaban karo waa inuu shacabku la shaqeeyaa agree okay shalay waxba tabanaysay Itoobiya dhan baa ka soo gudubtay nimankii adiga kula xirnaa waa lisii soo wada daayay jeelka idin ka soo wada daayay waa inaad aqli la timaadaa
wadinka oromee shalay la haystay ee laga soo daayay jeelka muxuu qabtaa anigu se maxaan qabtaa صح waa inaad iscabirtaa Ethiopia xageed kaga jirtaa ya صح marka waa in la iscafiyaa reconciliation maartay la yimaada dadku ay isla shaqeeyaan dadku waa wada walaalo dhibaato way dhacday ee laga gudbo ها yesterday is gone taariikhda inaad ka barato you don't know what's going to come tomorrow waxa berita wax iman doona ma ogid waa runta weligeen ismaan aan lahayn Ethiopia noocaan isku bedelaysa no one ever dream about that yes ha still ilaah ba og mid kala iman doonta laakiin wax fiican maartay un baanu rajaynaynaa oo dadku inay si nabad iyo maartay horumar ku wada noolaadaan Soomaalida inay dib isu noqoto ay xisaabtanto haddii aan tusaale yar ku soo qaato ninka la yiraahdo Jawaar Mohammed ee Ameerika ku nool yahay waa ninka media oromada ka hadla propagandaha intaasoo sano u waday wuxuu ahaa OPDO waa dad la isticmaalo oo Tigray ay isticmaalaan oo Oromo lagu gumaado maantana waanu la shaqeynaynaa buu leeyahay waa double standard ha wuxuu helay haye waxay noqdeen wuxuu noqday 50-50 adigu ma party gooniyaad samaysanaysaa Jarmalka lagu weydiiyay maalin dhaweyto ma party gooniyaad samaysanaysaa mise party-gana la shaqeysana waa 50-50 baan ahay laakiin for the sake of Oromo sacrifice waan support gareynaynaa OPDO buu ku leeyahay ha macnaha wixii dan u ah Oromo waan samaynayaa way ujeedadu adaa ku haystay laakiin haddee OPDO-diiba waxay la timid isbeddel iyo dhismo adag oo ay ku qancin karto mucaarid iyo muxaafidba waan ogsoonahay laakiin waxaan ka cabirayaa mucaaradka Oromaha halkuu joogo iyo mucaaradka Soomaaliga in meeshuu joogo ayaan rabaa inaan isbarbar dhigo faraq weyn oo dhaxay sababtoo maba nigan mucaaradka Oromadu wuxuu rabaa inuu wax dhisto wuxuu leeyahay haysta ka Soomaaliga inuu wax burburiyo rabaa oo hadda ka bilaabo from the beginning ha marka in da wixii ay noqdaan ummad maartay isfahanta oo reconciliation iyo la timaada cafis oo dadku ay wada shaqeeyaan oo si walaaltinimo loo wada shaqeeyo haddii aan maartay ku soo noqdo dawladda federaalka annagoo de kullay programkan ku dheeraana soo gabagabeynayna dawladda federaalku waxaan u malaynayaa sidii ay maartay prime ministerku wax ku waday oo marka hore loo malaynayay iyo sidii hadda wax yihiin waa kala labo taana waxa ugu wacan wuxuu maartay ambitionkii iyo ujeedadii uu lahaa asagoo visionkiisii waxaa ka tambadiyey visionka Oromada iyo danta Oromadu ay leedahay wasanan u mahdi ahaan u arkayo صح marka wuu ku qasban yahay danta Oromada iyo siday wax u rabaan inuu yeelo ama uusan muujinin into the public macnaha inuu ka soo horjeedo ama uu support gareynayo maadaama ay dawlad goboleed leeyihiin waxooda ayagu halkaa ku xalistaan hoostana la iska ogyahay waxay Soomaalidu ku maamulaa ilka adees hoosta ka xiriiraan hay marka Oromo hoosta ka xiriirdaa ay wadahay hoosta ka xiriirdaa they are more matured politically than us more stamina politically and maaragtay economically annagu keliya waxaan ku fakan karnaa Soomaali haddaan nahay inaan geed hoos fariisano aan xisaabtanno oo runta la soo sheego la iscafiyo wax inaga wada dhaxeeya la samaysto teeda kale dawladda federaalka haddii aad ka aamusto oodan ku qabsanin dastuurka wax ku qoran wixii la doonaa laga samaysanaya boosaha wax kasta lagu marsanaya sababtoo inaad xuquuqdaada ogtahay waxa kaaga maqan federaalka waxa kaaga maqan deegaanka waxa kaaga maqan qabalaha ka timid inaad fahansan tahay loo baahan yahay okay federaalka ummadda islaynayso aan kala qabanaynin ummad islaynaysa aan kala qabanaynin see loogu hoos loonaalayaa see loo adeecayaa dastuurkeeda soo loogu dhaqmaya wax su'aal la isweydiin weeyaan there is total ignorance media lagama hadli karo dawladdii dadka ma soo dhaxgalayso shacabkii dee hoosta un dabka ka horiya meesha ka kiciya weeyaan wax meesha ka socdo there is a hidden agenda waxa weeyaan mediadan waa in laga hadlaa danta
danta guud ee shacabkana in laga hadlo weeyaan meeshii dhibaato ka jirto ama wax ka jiraanna in la ifiyo weeyaan oo dhibkii la xalliyo si una u soo noqonin inaan horay u soconno oo gacmaha la isqabsado oo muxuu ah nidaamka jira aad hagaajisato unbaad ku guuraysan kartaa wixii jiray baan burburin waxaan jirin baan hadda dhisi haddii haddana 20 sano dib tallaabo u qaadi markaad meesha taagneed aad goormaad soo gaari marka ummaddii waa ku dhaaftay Ethiopia waa ku dhaaftay maanta dalkeena 2 jaamacadood kala leeyahay deegaankeena 8 milyan waana waxaa loo baahan yahay marka in waxbarashadii kor loo qaado deegaan walba jaamacad laga furo batroolkan laga soo saarayo deegaanka horta bal in dib loo geliyo deegaanka oo muxuu ahaa la dhiso infrastructure deegaanka la dhiso ardaydii mustaqbalka tomorrow la soo saaro loo maarta sharciga la hirgeliyo wax walba la sameeyo kadibna aad la xisaabtanto federaalka Ethiopia hadda waxaan aaminsanahay dhaqaalaha badan ee ka soo baxaya deegaanka percentage aan ku leenahay deegaan ahaan iyo calculationkeeda iyo accountancyada inaan dad garanayo oo ka shaqeyn kara inay jirin baan aaminsanahay oo maanta laga keenay makale laga keenay ama laga keenay muxuu ahaa abadaay laga keenay nin ku xisaabinay laga keenay muxuu ahaa gobolkan Amxaarada magaalada madaxda maxay ahayd okay adiga accountant iyo finance noocaas la weyn maaye ma aan soo gabagabeynaa jooga lama raqaan finance deegaanka ka soo baxa loo baahan yahay oo shirkadaha oo maartay master educated loo baahan yahay dadka in la dhiso oo dib loo habeeyo oo maartay deegaanka dhaqaalaha ka soo baxay isaga dib loogu celiyo aynu iska soo gabagabayno engineer qodobkan haddii la yiraahdo waday waxyaabaha qaarkood waa iska ambition de way fiican tahay long term in laga fikiro tayada waxbarashada kor loo qaado waa horena uga hadalnay laakiin batroolka iyo horumarka iyo siyaasadii oo kobac sameeyso waxa dhan waxa ka horeeya horta nabadgelyada heshiiska ummadda ay wada gacmaha isqabsato oo hal meel ka soo wada jeesato Ethiopia wax la qabsato anu taas ku soo gabagabayn lahaa Soomaalidu inay ka fikiraan ayahooda wax yar inta ka bixin in yar aan maartay qurba joog ahaan maadaama inagu ina xanuujinayso dhibaatada ay ku hayso oromadu dadkeeni ama mooyaalaato ama balbaleyti aato ama jilicsanaya aato ama meel walba haatee maxaa tallaabo oo qurba joog ahaan aynu ka qaadi karnaa ma cabashaan u gudbinaa dawladda federaalka oo aynu warqado u qornaa ma safaaradda Ingiriiska UK iyo safaaradda America iyo safaaradda Jarmalka iyo safaaradda Saudi Arabia ku taala ayaynu warqado u gudbinaa oo aynu leenahay federaalku waa inuu wax ka qabtaa oromada milishiyada ee dadka anaga gumaadaysa kaalintee inooga aadan inaga inaan wax ka qabanno arrintan aan dhammaanin ee weli xalka loo helin ee soo noqonaysa ee up to date ay socoto oromo inay dadkii laynayso kaalinteen inooga aadan ka qadanaa gudoomiye waxaa aad ugu yar qurux badnaan lahayd waa qodob in aynu dhammaanteen weliba akhyaar kale inala soo gasho oo aynu jeexjeexno researchkeedana aynu homework ku yara qaadano dhowr cisho ayaan jeclaan lahaa inagoo dadka guud ahaan warsanayno oo si walba isugu raadina laakiin waa one of the channels inaynu wax ku abaarna ay tahay lagama maarmaana ay tahay laakiin qaabkaynu wax u abaari lahayn haddii aynu hadda aynu sugayno tan horta aynu kaba hadlaynaa ka mid oo debatekan iyo discussionkan iyo wacyigelintana ka mid ah laakiin channelskii waxaan lagu abaari lahaa lagu dacwoon lahaa qayb ka mida oo qurba joogta ku aadan inaga teenu mid inooba taalo de waaba soo badadiso carabkaad ku dhufatay anu waxaan rabaa inaynu homework ku qaadano akhyaarta qurba joogta ee caqliga iyo aqoontaba u saaxiibkana aynu la tashano aynu wareejino ideedna aynu topic dib isugu soo noqono laakiin issue-gaynu maanta ka hadlaynay waan jeclaan lahaa inaynu iska soo gabagabayno aynu soo conclude garayno haddii aad qof walba 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo aad siin lahayd si uu soo conclude haddaad ina qaataan halkayga daqiiqo aan dhamaysto waxaan ku soo gabagabayn lahaa message oo ah Soomaalidu inay wada shaqeyso oy gacmaha isqabsadaan oy mid noqdaan
inuu ilaahay tuso oo aayahooda iyo maaragtay futurekooda ka tashtaan meel kastoo ay joogaan waa midda labaad qofka bini aadanka ah ee xukunka ku haya wuxuu kula shaqayn karaa wax ku qaban karaa markaad la shaqayso صح inay ummaddu gudaha iyo dibaddaba isla shaqeeyaan ummaddana dadka hor socda ee madaxda ka ah ee u naxariistaan ummadooda ay una hadlaan sometimes waxyaabaha qaarkood inaad sacrifice samayso waa lagaga baahan yahay sababtoo ah kolley wayse kuma dhoorinee ciddani ku dayn maysay xabashiye صح in the media laga hadlo waa waajib dembi maadan gelin oo tiraahdo dadkayga la gumaadayo dowladdu waa inay wax ka qabataa dembi maaha tallaabada ka qaad dowladdu cidna maxkamad kugu geyn mayso taas waana waajib ku saaran muwaadinnimo iyo mas-uulnimoba haddee laakiin ay jiraan caburitaan annagu aanan aqoonin oo midiyaha looga hadli karin ee xagga federaalka ka jira hadday jirto in dee qurba joogta sideenoo kaleeto america iyo australia iyo yurub joogto aanu ka hadalno iyo dhalinyarada iyo odayaasha loo fasaxo inay hadlaan صح of course dhibaatadooda ay ka hadlaan deegaankooda iyo waxa lagu hayo laakiin se lagu caawiyo local media صح si cabashadooda u gudbistaan ay u gudbiyaan ha ma garata صح taa in lagu dadaalo arrinkan hadda aad soo qaaday waa arrin u baahan consultation in maaragtay dadka aan la samayno consultation qurba joog keliya maahe gudaha xataa dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia xataa aan niraahno wada tashi de inuu dadka ka dhaxeeyo si de fikradaha loo kala qaato oo hal dhinac loo wax loo wado oo la wadaago talo iyo maxaan ku yiraahdaa iyo fikrad good point qurba joog ahaan inaynu inagu few points keena si independent ah aynu u abaarnaa ila qumanaa raalli ahaa walow ana kaa dhex gelin raalli ahaa صح no problem goon waa dhamaystaa anugu waan soo gabagabeynaya anigana pointkaygii engineer haddii aad wax kale haddii aanad soo dhigayn maya waxa weeyaan waa intaan weeyaan discussion waan wadi doonaa mar walbana haddii la yidhaahdo inaynu danaha soo guud gabagabeynaya marka anigu pointkaygii maanta adigu soo maxaad ku daraysaa ha pointkaygii inaan soo conclude gareeyo doodaydii baan rabaa maanta 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo bar baan insha Allah siinaysa go ahead ha waxaynu horta arrinkan waa arrin muhiim ah dadkan Soomaaliyeed dadkan iska yaacaya waxay ku salaysan yihiin iyo ujeedada ay wataan tuhun badan iyo shaki badan iyo colaad far badan dhaliyay oromada iska yaacaya waxa aniga ila quman inaynu meel saarno oo dadkan Soomaalidii qof kasta waxa uu yahay inuu maaragtay ku fakiro arrinkaas sidii meel loogu hubsan lahaa waxan ma dawlad federaal baa ka dambaysa waxan ma dawlad oromaa ka dambeeya ma jabhado oromaa ka dambeeya ma shacab oromaa ah waxaan horta waa inaynu cadeyno exactly wuxuu yahay haddii ay silsilad isku xidhxidhan tahayna waa inay caddaato anigu waxaan qabaa Soomaalida iyo oromadu inay dad xuduud dheer wada inay yihiin dad qarniyaal soo wada noolaa inay yihiin dad aan geeska Afrika ku kala guuri karin inay yihiin dad qowmiyadda kale intay laga doo ay ku dul noolaan karayso inayna suuragal ahayn waqtigan xaadirkee la jiro qaabkii oromadan ama dadka xasuuqaya ee baangada la daba ordaya anigu waxaan aaminsanahay khaladku badankiisu xaggeenu jiraa oo ay tahay dayaca arrinkan inuu dhaco maxaa sababay because oromada waxyaabaha u soo kordhay iyo inaga waxyaabaha inaga dhinnay miisaanka isweydaartay ayaa sababay in oromadu ay dadkan sidan ugu tacadido oo sidan ay ugu raato waxa inoo marka quman in aynu wajahno channelladii aynu ku address gareyn lahayn platformyadii mediaha inta badan waynu soo wada qaadqaadnay maanta waan ka xumahay wiil Soomaaliyeed ayaa u afayeenka federaalka Ethiopia oo media iyo wax oo dhan control isaga afka Ethiopia ku hadla isaga ayaa media oo dhan controla
arrinkaas inay Soomaalidu ka xisaabtantaa loo baahan yahay siyaasiyiintu inay ka xisaabtantaa loo baahan yahay with all due respect Axmed Shida anigu shakhsiyan ma weerarayo laakiin mas-uulkii kale ka horreeyay Oromo ahaa maxay ku dhacday inuu wiilkaa hore Oromada ka horreeyay inuu markuu soo qaadaba inuu Oromada difaacayay iyaga oo baangadii watay Ikaad Axmed iyaga oo baangadii watay maanta haddii wiil Soomaaliya loogu dhiibay afkii Ethiopia inuu hadlo ma gacal buuna Soomaali u ahayn ma durbaankan kii Soomaali luqadeeda ku macna arkeeda lagu tumeeyay ba loogu talagelin marka labada midkood ba qaldan haddii aynu xagga media noqoto oo arrinkan black out ka ah maxay ku dhacday mar haddii la yiraahdo waxa la yiri durbaan ama gacalka ku macna ama garabka kugu jiro ama gacalka ku hayo marka Axmed Shida ma gacal Soomaaliyeed baanu ahayn ma garabkii Soomaaliyeed baanu ahayn ma gurbaankana maxaan ku dhahay inaan ku baayna qayb aanan ku lahayn midii taasaan kaga baxaya dhinaca kale Ethiopia kale oo dhan midii horta uu ka wada hana qaaday barafadyo TV ah barafadyo FM barafadyo wax oo dhan gidigood ama Addis Ababa ha noqoto ama Bahadaar ha noqoto ama meesha la yiraahdo Maqala ha noqoto gidigood uu ka hana qaaday maxaa ku dhacday deegaanadii Soomaaliya kale diri dhaba tahay maxay private FMs muxuu ga furmi waayay maxay TV-yadii maxaan ku dhahaa Soomaalida FM maxaan ku dhahaa ay uga furmi waayeen boqolaal TV oo Soomaaliyeed oo fara badan baa jiro oo nooc walba leh soo markaana taana waxaan isweydiinayaa ma Soomaalida ayaa ujeedo kala wadata ma Soomaalida ayaa dab iyo baasiin ku ameeshan waa in ay Soomaalida wixii media ku hawlay waa inay ka hawl galaan iyaga oo la jaan qaadaya jihadana Ethiopia maanta oo socota oo nin walbaaba inuu dantiisa ka hadlo isagoon dadka kale aanu nacayn ma haddii aan idhaaho dowladda Soomaalida Ethiopia ayaa number 1 ah ma aha inaan Oromo nacabnahay ma aha inaynu nacabnahay Axmaara aynu nacabnahay ma aha inaynu Tigreega maamulka inaynu colaysano laakiin waa inaynu isku dayno inaynu kuyuga xagga hore ku galno oo inuu dadka ku qancino inaynu inagu aynu ku xaq leenahay kuyuga xagga hore inaynu fadhiisano oo inuu safka hore fadhiisano waa inaynu dadkan Ethiopiaanka aynu ka qancino dad hankooda uu weyn yahay oo in lagu aamini karo steerinkan Ethiopia ama maxaan ku dhahay controlka maxaan ku dhahay maamul ee Ethiopia federaaliga kala haday noqoto waa inaynu ku qancino waa inaynu saameyn yeelano waa inuu ardayga iskuulka maanta ku jira oo ku fakiro inuu heerku Ethiopia shookaanteeda ku qaban lahaa marka uu gaaro uu hayso waxa ilaahay dadka uu dhulka ku camiro waa dadkan dhulka hadii ayna dadku ayna camireynin geedaha iyo dhagaxa iyo waxaas oo dhan bani aadam ka hor way jireen laakiin ilaahay dhulka wuxuu ku camiray dadku ku camiray dadkuna waxay camiraaduna ku xidhan tahay sida ay wanaag ay dhulka ugu sameeyaan oo dhulkii ayna u baabi'inin oo iyagu isu baabi'inin oo deriskooda ayna u baabi'inin waa inaynu la nimaadno deris jacayl waa inaynu la nimaadno waa inaynu siyaasad bisil la nimaadno waa inuu siyaasigeenu uu yeesho dub adag oo la wada dul fuuli karo oo la xagxagan karo oo la qaniini karo oo la raran karo waa inuu la yimaado waa inaynu la nimaadno dadka Soomaaliya maxaan ku dhahay macna muwaadiniintii waa inay la yimaadaan qofkan u shaqeynaya waa inay ixtiraam la yimaadaan waa inay marka ay uu ka khaldamo waa inay hadal leeyina ay ula tagaan oo yiraahaan macna hadal qabow ay ku abaaraan iyaga oo sheeganaya xaqoodii waxoodii iyaga oo sheeganaya waa inay Soomaalidu guud ahaan waa inay iswaji buuxiso meel kasta uu jiro anu waxaan ku soo koobinayaa dibiyadaas haddii ayna iyagu midabta koor ayna isku sameeyeen lama ugaarsadeen Soomaaliya ka baxdo marka qoobka والسلام عليكم. وأنا صدق قدومي وأنا صنتهاي أدبر كم هندق يا داوياشا نرى داوية برنامج كان أما أنت كوفا لقيني ويرك قاون رمضان كوها يسوع شعب دولة دقيقة كسوان إثيوبيا وعن لغة الدين أيام حانقو أصنع عاوة إن فلنقينه ورك قدام بي وشيء يعني إنه يلا إلا شلي إلا ويجن هذا تقدر تقول له ويرك صعب وحانو كعصاننا دولة دجان كسوماليا إثيوبيا يدولة الفدرالكا إن لو جرمدا شعب كاس ولا بدباديو لجانا هرتجو ميليشيا كان هوبيسن وطا مجا أو ألف وطا أما مجا يكلا وطا دتك سوماليا اللينة يجوا دنا جارة وطا كل يبقى وحفرت الوقوف في غيا كعلون كان إنه قدم بيو نيكل إلى جوار محمد أمريكا نكاسو مرة والبا اسكت ده إنه سوماليا أورما مدح السجلية سو مثلا أورما وحلي هذا
aan soomaalidana u arag inay yihiin dad maaragtay deegaanka wax ku leh taasina maaragtay wax aan dadka soomaalidu ay aqbalayaan ma ah waana ka dhidhinaynaa aad baan idinka mahadnaqayaa gentleman waqtiga fiicanad na siiseen iyo sida fiicanad maaragtay sharaxaad uga bixiseen waa aqoon-yahanadii DSI waad mahadsantihiin guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad khayr baan idin rajay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad halkan kala socotiin barnaamijkan waa tilmaan TV oo mar walba falanqeeya siyaasadda geeska Afrika caalamka iyo dhinac walba habeen wanaagsan isma dhaafna dhammaantiin habeen wanaagsan injineer maxamed iyo tilmaan TV habeen wanaagsan aad baad u mahadsantahay wanaagsan idinkaa mudan habeen wanaagsan